راديو كلمية 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 kulanti wacan dhegaystayaal idilkiiba meel walbo aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka qaladaadka wariyaasha oo sanadkiiba mar xilliga sanad guurada aad ka dhagaysataan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho 9 sanad guuro wanaagsan waan idin leenahay waa barnaamij sanadlaah waa 9 Febraayo waa kan ku soo wada maxaan dhaar waa barnaamijkii sanadlaha 9 Febraayo saacadahan oo kale aad maqli jirtaan sira badan oo wariyaasha u qarsoonaana la kashifi jiray waa barnaamij aanu ku soo bandhigno qaladaadka wariyaasha ka dhaca inta ay ku guda jiraan duubista barnaamijyada wararka iyo waliba si live marka ay u tabinayaan intaba waa maray ma soo taartay waa isbaani arka joog dad badan laakiin maanta ugu yaraan 9 tagi doon laakiin hal qalad leeyahay dheerada idaacaddan heeka joog waayahay yaan ku bilownaa horta barnaamijkii jeedinaya Umar waa bal iska yaqaan dheerada marada Maryan Umar leeyahay waa tahay Cabdullaahi Maxamed Cali marka hore waxaan leenahay 9 sano guuro wanaagsan Cabdullaahi soo dhawo isagaan ku bilaabeena waa duqowna 9 sano joognaa waa idin jeeda aniga isku facmanahine aniga 2 sano la joogaayo waliba haaf ay ka sii dhiman tahay marka hore sanad guuro wanaagsan 9 sano guuradii idaacadda kulmiye u dabaaldegaysan dhageystayaasha idinka idin la wadaagaya marka waan dhawahay inkastoo barnaamijkan aan mudneen oo u malaysid in lagu soo qaldayba waa run ilaa waxa tahay ninka ugu da'da yar ugu maskiinsan ugu sheekh idaacadda sheekh yala dilira wala badan sheekh Umar boo joogaa Umaro maadaama isaga sheekh idaacadda yahay isaga u dooran barnaamijkiina daafro wadaadada warigood baa lagu furi jiray Soomaaliya ana ayada quraan ma akhrina macna qalad laga bahay ma khalad ma laga hayo waa la og yahay ma khalad ma laga hayo laakiin gafaf badan laga hayo daafur quraanka la raadaa daafur quraan ma gafaf laga hayo gafaf qaladaan laga ma hayo saas ma taa aadiyad Cabdullaahi 10 February 2019 ilaa 8 February 2020 ma sugtaa inuu qalad ka dhicin horta maadaama ay sanad guuradii labaad ay tahay idaacadda oo sanadka hore aan ku cusbay qaladaadna laga soo bandhigay meeshaan aan joogin isdifaacin maanta horta waxaan u maadinaa isdifaaca waay marka qalad way dhici karaan horta bini aadan kasta qalad uu galaya laakiin 10 kii la soo dhaafay horta ofa laakiin labadii bil ugu dambeysay maybe ina 9 kii dhibto laga yaabo laakiin wixii ka horeeyay la ku Soomaali horta barnaamijyadoodu inta badan waxay u badan yihiin toos tabin ah مثلا waxaa jira hadda barnaamijyo la duubo oo kale sida barnaamijkeego kale murtiima weelo oo kale waa iska duuban yahay qaladaadkiisa kaas luuqan kasta luuq waxa aan la arkay intaas waa adiga laakiin toos ama microphone ku furaya toos lagu dhageysanaa labadii sano aan sanadkii hadda sidii maray ku sheegtay 2019 Febraayo ilaa 9 Febraayo 8 Febraayo 2020 wax qalad oo ka dhaca inta aan kawanka lagu saaray ma xasuusataa laga yaabay halko inaad soo qabataan laakiin waxa aan ku dhigi karaa hadda qaladaadkaas waa weyn aan galma jirto faray taagan haye Cabdiqani askan saaxiibkay wuu isdifaacay laakiin maanta waxaan ku bashaaraynayaa booski tuurir horta idin salaamay meesha ka maqan oo naga yar mashquulay marka sanadkii hore waxa waay tuuriran kaalinta isku haynay marka isaga inuu aad iga horeeyo aan ugu sii bashaaraynaya waa kaalintii alwaaxa la isku haystaa horta tuurir waa salaamina nin wuxuu ahaa in adeega ka batay sanad walba asaa qaadanayay waxaan jeclaa marka farsamayaqaaniintuna wax ka xaasinimo badan ma leh ma ku sheegayaan qaladka hore ka qabanayaan waa shaqaysteen Soomaaliya farsamayaqaanka Shariif ay nan maqashibal isla magaalada kale ee New York ee dalkaasi Mareykanka hadii aan eegnane sidoo kale waxa ka dhacday toogasho loo adeegsaday toorey super suuqa kala hello maxaa loo adeegsaday Cabdullaahi أنا توقيش لا شيء محلو هذيك سمحوا ما مقلن ميا عارف فرصة ميقان ugu celi isla magaalada kale ee New York ee dalkaasi Mareykanka hadii aan eegnane sidoo kale waxa ka dhacday toogasho loo adeegsaday toorey wali ma la maqlin toorey oo toogasho loo adeegsaday Umar laakiin la tooro ma laga yaabo toogasho ma noqon kartaa hay toogasho wiil ma la joogo meeshaas hadda maxay kula
toogasho torey loo adeegsadaa sana baraya noo faahfaahin shariif horta oo barnaamijka farsameynayo qaladkan soo qabtay qaladka ugu badan inta badan asaa soo qabto barnaamijka baryasamo ahaay oo halka sac soo galo dareemaysa barnaamijkaas waa xilli horena waa yahay qaladka ugu badan asaa laga soo qabtaa inta badan marka waxaan ka baxay isla Mareykanka oo artay toogashooyin badan ka dhaco taxis inay hadaan jecelahay toogasho ka dhacday oo qori loo adeegsaday dadku dhinteen sheegay marka New York sidoo kale iyadana waa sii fiiriyay inay dad ay ku dhinteen aan fahmay marka intaan sii aaday qodob kale aan soo baxsanay waxaas ka sii qiyaas idan inay tahay toogasho kadib baa ay soo baxday markii ay toorey tahay waa ka laabtay marka weer loo askay tooreyanda marka inta dhexe asaa sheegay Shariif meesho geeyay macna qaladkaas inuu ka dhaco horta ma qirsata adiga laakiin taas waa qirsanaha maxaa keenay horta inta badan inay qaladaad ka dhacaan qaladaadka inta badan horta markuu qofka oo toos ku jiro waxa dhacayso markuu wax sheego inuu meel kale ka sii fikiraayo isagoo meesha kale ku sii maqan inuu ku daba daro marka tii horena uusan ka soo dhamaanin tii kalena uusan wali gaarin marka dhaxdii ku ka baamar Cabdullaahi aadan ku fahmnay waxaan jeclahay sanadka dambe inaysan noqon toogasho loo adeegsado dhagax hadda toddobaadka waxay noqotay toorey hay marin mislada Cabdullaahi Maxamed Cali qaladkan ma isleedahay kaliya laga soo qabtay mise qaladaad kala tuhmaysa in laga haayo qaladkaas la iska jeclaa la iska fasax maadaama hal asi qiyaasay hal qiyaasaysa wax kale ma jiraan iska fasax jeclaa sheekeeyo dhig mirin saadaalna waa jirtay oo Cabdiqani ay uga haystaa saadaala jirtay uga haystaa oo qalad badan yahay dhahay ma ninkan kaalin turina siiyay baan way Cabdiqani maadaama soo barto uu qaato uu rabo kaalinta wax ka bedelo marka anigu ma noqon doono u baahan yahay marka anigu ma noqon doono laakiin waa gadaal dambe waa ka arki doonaa wax bedelo والله horta muji cusub la helo waa beel waa soo dhaweynaa tuuriyare iyo ninkaleeda Cabdiqani ayaa sanad walba ku tartami jiray sanadkan inuu qof kala soo baxo ama adiga sanadkan la joogo in kasto ama horta warqabadka laftigooda qaladaadkooda in qol la geliyo laakiin wala soo qabana reporterada laftigooda waa la kala waxaan jecelahay Cabdullaahi intuu samiiska ka kacin farsamayqan marka la balina wax maqashiiso madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf ayaa waxa uu sheegay in uu kala laabtay ciidamada dalkaasi Mareykanka كلمان لايف قال كلمان لايف كلمان لايف إيزق عبد الغني لايف قال كلمان لايف قال إنك سببتها أسر بحيتها وقتها كلمان وحيتها برامج فني ضدك وحيابا معقولة مرة كغار ليسود إن حاف دولة مريكان كأو عيد ما كلا لابتو مرجع كلمان دونا إذا قلبي كورة مريكا كتكلم إذا قلبي كورة مريكا كتكلم والله maamul goboleed ka tirsan maamul goboleedyada dalka oo ciidamo kala soo laabtay Mareykanka waa sheekadu fiican horta Cumar oo kar ila soo qabara ma bileyneen laakiin qaladka horta waa la socdaa waxa qabatay Iqra Axmed Maxamuud oo farsamayaqaanada ka tirsan marka oo Iqra waxaan is lahaa wiilasha waa ka beerjil canta waa gabar ilaa kan baad soo qabtay beerjil cumiyada ila Shariif yaadi sax qadar ma fahmin marka qaladkan horta wuxuu ku dhacay si kama uma dhicin oo cid isku qalad karto ma jirto madaxweyne Xaaf ee ciidamada Mareykanka marka Xaafna waa maalmihii oo khilaafka aad u taagnaa Galmudug oo soo saaray liiska xildhibaanada iyo gudiyadana marka amar marka wuxuu ku bixiyay in inta ku shaqada leh maamulkiisa ay galkacay yimaadaan marka qodobada waa aragtay ogaal 5 saac qodobada rogaal celiska dhageysayaasha inta badan ay maqlaan marka 5 saac markay ku dhacday qodobadana computerka igu jireen computerkan la soo baxay waxaa taqaanaa markii oo website-ka la galo live stream ka doosan codka ka xirneen oo soo qaylinaa iyadoo li soo daayay iyo qodob koowaad sii galay iyo codkii oo soo qayliyay marka laba mid ah door biday ina ikhrado dhaho iqro microphone iga xira waxaan iska habeeyo ina codka bis computerka iska xiro marka waxa door baxaan sida computerka fudud computerka hadana waaba sii waayay codkii meesha ku jiray sii waay intaas waxa sida dhageysayaashu ku dhageysanayaan si hadal marka iyadoo waxa ogaay madaxweyne Xaafan ka sheekeynaa waa ka soo gudbay xasan Xaafis kaga tag qodobka labaad oo Mareykanka ayaan soo qabsaday marka labadooda sidaan isku qabtay hatta ma fahmin kadib markii barnaamijka la jarjaray aan dhageystay aan arkaba Xaaf oo u hanjabay ciidamada Mareykanka oral suno loo maruway inta Mareykanka gaadhay ay caras ay oo tagacanta tagays muxuu ka wada anuu qaato markaas in ciidamo tababar xaq ay ka yimideen galmudug loo soo tababaray marka ciidamadu kala soo horta waxa way hadalka marba dhinac kula aadaa
لا waa idinka daayaraan u maleynaa 2000 waxaan xasuustaan oo dhaha ciidamada badda ee Hiiraan ma badle Hiiraan rabay moogta adiga marka caado waa la gali karaa waxaan u maleynaa wali barnaamijkii ayaan ku guda jirnaa Cabdullaahi laba qalad oo fiican laga helay mid saddexaad waxaan u maleynaa inaadan galin sax ما يسوي وقتها وقتها ما أنا وقتها بالبران وحسوا هذا من واحد يروح ما يرتي هذا أرت عليه كوري قدام بس لكن كل شريف كعنت تاجويا وحنا يستاهل حاسس أنا شريف هاي شريف fayraska aan la aqoonin ee ka dilaacay shiinaha dunida meelo badan oo ka tirsan ku sii faafaya waxa la sheegayaa in laga qaado cunista dooliga iyo shiinaha shiinaha wax la cunamaya war shiinahi dooli ma ana biskeeti laga dhigtaa fiican shiinaha maadaama dooliga indha yar yahay shiinaha indha yar yihiin isku mid oo ka dhigay عمر خلاص كويس ترى يا جوري marka bal arinta rada ka hadlo laga yaabo dadka qaarna sidaan shiinaha la cunaa mugtahay barnaamijka kula ko ahay brandiri waalta qabiis barnaamijka iska bedela marka inta badan waxa cudurkan coronavirus oo aragtay oo shiinaha ka dilaacay dunida meel badan dhibaato ku haya marka waxa la soo qoray waxyaabaha dadka ay iska ilaaliyaan ee mudantaasi aan cudurkan looga qaadin marka shiinahana kibiliga iyo dooliga iyo masaskii aad looga cunaa marka waxa uu leeyahay cunista xayawaanadan waxyaabo qayb ka tahay waxyaabaha sababa in cudurkan ama fayraskan coronavirus la qaado marka warbixintii aan akhrinayay saan u soo marka shiinaha waxa uu soo sheekeynayay kadib markii dambe dooliga iyo shiinaha aan siidaahay وانا كسي لابتو markii dambe masaskan ku bedelay ma aqaan un shariif waxay dhexdooda kala bixi jiray kamid tahay ma dhimale shiina hadda soo qaadato waxaan u arkay in afkooda adag moogta shin haan ila masaska la cunaa ay marin maxay kula shariif intuu rawooba ka helay Soomaaliya qaladkiisa oo jartay muraadkiisana wuu gaaray horta asxaan in lagu sameeyo ha sugin farsamo yaqaaniinta marka Cabdullaahi waa fasaxeena ugu adag yahay mugtahay shariif ku amaana haleeyo farsamo yaqaaniinta kale farsamo yaqaaniinta kale horta madiina ayad ma sey laakiin shariif waxa waaye xil gooni oo sanad qoran iska saara in qaladadka hadda maanta ma soo 9 bisha maanta laga bilaabo biri waa bilaabooyaa waa hawshiisa laakiin faraano war kadoodiya ku dhacay tawaas kadoodiya adinka maamulka tiin shaqada ugu mahad celinaysa laakiin anaga caqabada ku qabna way Cabdullaahi adoo ku fasaxayna marka aad oo maasan balaaligis dabkii balaayiga nadfikra kubadda alwax waa qaadanaysaa insha Allah wali halkaas aad naga dhageysanaysaana waa radio kulmiye barnaamijkuna waa barnaamijkii soo bandhigista qaladaadka wariyaha waa barnaamij sanadlaha waa saacadahan oo kale waa 9 Febraayo shamsa ay hor fadhisa kawaankay saaran tahay allo namood shamsa soo dhaw waad maasanta Umar adiga iyo Maryama iyo asxaabta kale radio kulmiye iyo maxaan ku raada dhageystayaasheena waxaan leeyahay sanad guuro wanaagsan waxa maqlay jiray muusiga iyo codka ay dilay codka guuxa hadii jiray saaka anuu gabadha ugu taageerayaasha badan waa aniga naftayga waa taageera adiguna talo sacbiyano saaka anuu hurda la soo kicay saas oo codka u weyn hadda soo kacmana haddaba soo kacday oo 9 Febraayo oo si weyn loo dabaaldagayo hadda soo kacday haddaba soo kacay waxa xala ma dhafartay xala xoga chatting ba ku dhafaraa ma heesi xala heesi idaacada xala qaadaysa idaacada heesida ya qaadil hadaan ugu qaaday waa runta saas oo maqnaa ay shamso runtii waxa ka mid tahay wariyaasha radio kulmiye adoo magacay badan shamsana waa lagu dhahaa shamsana waa lagu dhahaa horta labada magacayaa sax kan hooyada igu wacdan jecelahay xitaa hooyada abi marka qaar isku khilaafo abay shamsi dhaa hooyada shams way tiraadaan marka dadku waa saas oo kale lamid laakiin kan hooyada igu wacdan jecelahay shams annakan abaha kugu wacan jecelahay shamso magac saddexaad jira leeyahay ma qofkii keen isaga la soo weydiiyay Cabdi Qani hay inta ka keento warkaas adiga jaabkaaga waa ma iskuulka weydiin magac loo yeeray ma kalamaan waa waxaan ka rabaa sanadka ka war waxaan u malaynayaa horta shariif waa iska joogaa maalin walba wuu soo taagan yahay xataa kadoodiyada ku dhaca dhex taagan yahay qalad uu raadinaa qalad intaas wax uu raadinayaa marka ayaamahan wax prank la raadina soo baxay aduu rabo iska sameeysan aduu rabo jeebkiisa way ahaa
hasha waxaan jecelahay shariif laftigiisa in brank uu jiraa la yiri mugta isagaa samaysanaya la yiri shariif laftigiisa la rabaa inuu ka jawaabo hay shariif ma adaa jeebka ka samaystay waa maasantahay Cumar oo adiga Maryan oo barnaamijka kula waday asxaabta kale horta waa hadal iska mustaxiil markaa sababtoo ah hadii aan samaysto codka shamis ma yeeli kari yani codka shamis ma yeeli kari marka waxaa la heli karaa codkeeda baa la hayaa marka isdifaac meeshaas inuu ka galo waxa wax kale waa hay waa maasata horta taas waa laga soo celiyay waa laga soo tuuray iska raasa jaalisa kale maray maxay kula shamis meeqa qaladaad isleedahay waa laga hayaa sanadkan ani brank le waan taagana wali il adka maba aaminsanid been qalad uu ka dhacay ma hafasho intaad shaqeynayso ma hafasho mararka qaar way dhacay laakiin khalad iga dhacay شريف سجى تشيب كيس كريم عمر وانت برامجك من كور شمس وحكي عبسنا كبدل لو حقات ما ogtahay xabs waa qofka ugu dhow shamis oo saaxiibadii sidaa ka shafata marka burhaan wuxuu leeyahay shamis inay qirato qaladkeeda hasugunine bal shariif macnaha ha ku dhawaaq qalad hay shariif kooway koow Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa maalmahan ku sugnaa qaybo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose oo ay kamid yihiin magaalooyinka Xudur iyo Baydhabo oo booqasho ku joogay Xudur iyo Baydhabo hal mar igu celiyo dad badan aan fahmin dad badan oo dhageystayaal laga yaabaa inaysan fahmin hal loogu celiyo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa maalmahan ku sugnaa qaybo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose oo ay kamid yihiin magaalooyinka Xudur iyo Baydhabo oo booqasho ku joogay يا قبل صدحات كاري بحرب هرت هل شيء إنا فهمه حضر يا بايدابو وباي يا بكول حضر وبكول بايدابنا وباي أديكنا واحد كنتي شبه الله هوسه بل أنت أنا وركها جفه منه أديك نوفسرين وحن جعلها شريف شاكي هاي شاكي وما سنتها عمره هرت صباح قلت كان جليسي waxaan dhahay maxaa ula jeeday ra'iisul wasaaraha booqanayo meel ka mid ah Shabeellada Hoose hadana Xudur Baydhabo inaad noo sheegto maxaa ka wada markaasi ma ogiyay dhaad waxaan sheegay dhan adle ka maqluuy haye soo dhaw shamis waa ma santahay Cumarow khaladkaas wuxuu ahaa warka saacadu ku baxay waan xustaa maalin jimci ahayd isaga gambarka qayli iga deyn waa markaas aanu isku boqon gambarku iga dhamaan waay dhalalo soo saacadu waa la gaaray isaga ay waala marka jeebkiisa way isaga keensaday gambarka isu hal mar isu waxaan rabaa hal su'aal inaan weydiiyo shamisay difaacan oo shubka dhagaxa dhiganaysid aan waxyar horta ka tusaa saacadu waa waajib ka saaran waa farsamayaqaankii ilaa dhageystayaashu waqtiga u bateen xilliga saacada la jooga gambaleelka qolkaaga aad wax ku diyaarsanayso oo kuugu soo dhacay soo bax saacadaadi waa la joogaa waad baxday waa tagtay adiga sida see u dhahay wixii aan aniga sheegay ma bogo isaga hal weydiisay noo dhahay yani markuu gambaleelka iga deyn kari waayay oo yani marka jimcada waxa weeye waxa ka sii horeeyay warka saacada xogaa hordhac waxa jira oo xiriir waxdaas marka maya ma la gaarin isaga wuxuu jecel yahay in studio hore loogu sii joogo marka haduu qaylada markuu gambaleelka iga deeyo anoo isku boqsay isaga inaan maagaan rabay maagidiisii horta waxa iga soo dhacday iladka ana sheegay horta gambaleelkaas waxa la yiriyaa saacada qofka waqtiga tusaale ahaan markuu warka saacada 12 soo galaa ama 6 saacadood hormay waa 3 daqiiqo kor waa sax qofkii inuu fadhiyo meesha inuu fadhiyo meesha marka si digniina loogu sheegaa 3 daqiiqo 4 daqiiqo hor in 4 daqiiqo 3 daqiiqo ay ku dhimanta marka 3 daqiiqo 4 daqiiqo marka bilaash nervous oo noqoto shamis maahay waa ku tala gashay kada bal isu isdifaac hada zaa'ida maran hay maxaa dhahay shamis sheekay ka mas'uuliyad laakiin qalad kale lagu hayaa shamis misleeda qalad labaad macna de sharif uu joogaa baan mar walba iska joogaa iladka sharif biisa ayba mid kale guud ahaan warkii subax oo aad kala socoteen dhageystayaal idaacadda kulmiye waa naga intaas cidii uu sheego radio kulmiye.net ay dib uga heli karaan nabadgelyo warkaale sug dada hadda wali fahmin dhageystayaasha ugu daran horta waxaan rabaa mugtaa dhageystayaasha wax badan aan u iftiimino waxaan jecelahay bal mar kale dhageystayaasha inta aan faahfaahinta gelin inaan mar kale hawada u saarno
guud ahaan warkii subax oo aad kala socoteen dhegaystayaal idaacadda kulmiye waa naga intaas ciddii uu sheego radio kulmiye.net ayay dib uga heli karaan nabadgelyo qof damba ka hadli karto shan sano fasir warka subax buu ahaa sidaad u jeedo waxaan ka codsanaa ilaa adeegana jooji ay misdibaade waayahay waxlee sheeg waxlee waayahay taas waxaan dhihi karaa waa hafasho maxaa ku hafata marka يعني ده هذا كوي جوي مركها هذا الكي كوي جوي نوفا فاهم ما فاهمه هذا سأيو شاء واحد فريس ما دحين عدي وسيجي يا ضربت عدي وسيجر عدي وشجع هذا سجع مركي في فروت تاعي هاي عرس صدو ماشي الشعب اللي قرب الساعة كدك منها هذه كتوتك بس هذه قدرة معنى كلا يا رطباج عمرو شمس ولي waxay ku siin dhacdaynaysa ama meel soo taagan tahay isaga ay fiirinay ilaa hadda sheekay ida kaga dhigan tahay maanta وي فيري فروت تاعي soo gabagabay bulaha شمس qaladaad kale misleeda malaha waxaa laga yaabaa qaladaadka dal soo wada farsamo yaqaaniinta kale ay ka soo qabteen hadii iyaga ay noqdaan ama iqrin ay ka soo qabteen ama Cabdirasaaq iyagana ma sheekay la mid yihiin macna ayaga ku fiirinaayeen markii hore markii aad ii soo yeeriseen soo jiidaysay waxa la deeray haduu sheekay maqan yahay ku diixita ku dhaw markii wasla isagii way wartan ma laga yaabo inay ku tiraado abeed haba ka sugin hore loo sheegay hay qaladka saddexaad sheekayo iyadoo laga cabsi qabo inay da'aan dabaylo culus ما dad badan aan hadda fahmin aniga waa fahmay dad badan oo dhageystayaashaana fahmin wariyaashana la fadhiya qaarkood aan fahmin maxaa dhacay mise waxba dhacay bal horta marka aan dhageysano iyadoo laga cabsi qabo inay da'aan dabaylo culus waxa laga cabsi qabaa dabaylo dhacay laga cabsi qabaa miya inay dhacayaan see u rabtaa wuxuu ahaa warka subax buu ahaa ageysan burhaan bay akhrinayay marka maxaan ku radaa waxa laga hadlayay Puntland bay ahayd oo yaanti laga cabsi qabin duufaan wax dhacaan marka dabayliya marka daaya dabaylo waxaan rabaa inaan iraahdo in roobab da'an iyo dabaylo wax saas oo kala marka waxay noqotay dabayshii baa badaaday badee war ilma reeyalo kaalaya war adiga kaale dabaylsi u da'aysa dabayl ma roob baa mise waa biyo taasna khaladkeeda farsamo yaqaanta ma iskala agaasima iskale ورمي واتو تقوينها تعالى هيا فرحان هيا كالي وحن جعلها بلدي وبرغ شمس يو أقسمها مورسو على صلاح خيارته محمى لكن فرسمي قانينتا أي خرادات كأيدا كدعو ساريسي هذا أقسمه وجودته هذا ما لقيها بين هذه اللفتة كوتي مال والله يا مرة هذا أقسمه أي سواح جيس أنا نقلب جيس ولا يا نندات خاضع بعوس كوايا قالت كأفراد جعلها مركبنا maanta oo kale sanadkii 1943 ciidamadii Japan ayaa ku duulay dalka New Delhi oo kamid ahaa dalalka Ingiriis ku haystay دي واتو انت ku duulay ma fahmin miya ugu celi farsamo yaqaan maanta oo kale sanadkii 1943 ciidamadii Japan ayaa ku duulay dalka New Delhi oo kamid ahaa dalalka Ingiriis ku haystay New Delhi oo kamid ah magaalooyinka wadanka India shimay dal noqotay shamsay taasna waa agasi burhaan wari isaga ay soo qorin ana gacan ka taagay yaa la nawin ma soo qorin qoraalkaasna waa haya yaraan xaydin isaga xitaa ii sheego isaga iga tirtiray tan ii sheegay adeegay qaado shamis waxaan maqli jiray kubadda dahabka kubadda qalinka kubadda maarta alwaaxa الأضيق يتنقادين هذا أفر ملوس عبد الله الحبيب دارت عبد الله ها صدق حمرين ما بقول ما توما يناش ساس مكون منه أنا مركي هرا بنا مسين خلط ليك يعني وحبي مولي من دقيقة لقصة هاي فرصة دقيقة maanta oo kale sanadkii 1943 madaxweynihii xilligaasi ee dalka Mareykanka Frankari إلهي تن خرج يعني قاعد على وقرأت يا ما قادنا يا نصب إيه نصب إيه
laxankiisa wata waa qalad laxankiisa wata si uu de Franklin ka safaltay la ninkan horta maxay tir marka Franklin ma ka diraysta arab cumarow xitaa waxaa jirtay tan inay khalad tahay xitaa waxaad ku garan karaysaa ilaahay baan bari xitaa shariif hasin dhamaystiray bal hal marka noogu celi maanta oo kale sanadkii 1943 madaxweynihii xilligaasi ee dalka Mareykanka Franklin ilaahay وارنتين إلهي فرش إلهي يوتر ما برين لكن إلهي يولتر إلهي حست غلط كان وين قاعدة الشمس غلط كان قاعدة من كان واقعتها وما سنتها وين ما تمرها وين ما تاع فرسمي قان كفرت أنت لا هذا haatanna wararka shabeellada hoose al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday deegaanka qalimow ee gobolka shabeellada dhexe waryaheena bashiir cali daahir ayaa inoo faahfaahinaya هيا bal marka ma dhageystayaasha laga yaabaa inay fahmaan anigu waa fahmay farsamada waxa laga yaabaa inay fahmaan dhageystayaasha marka aan ugu celino haatanna wararka shabeellada hoose al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday deegaanka qalimow ee gobolka shabeellada dhexe waryaheena bashiir cali daahir ayaa inoo faahfaahinaya shabeellada hoose noo rarta marka hore waxaan ka sugeynaa afgooya marka shalaanbood meelahaas ka sugeynaa number 50 maxayna geysay qalimow shabeellada dhexe waa run laakiin intee geysay marka hore وعاد دمر بدن كدغay way soo wareejiyeen iska qaadano ma qaadanaya tantii hore qaatay wada baratay yani حمص adiga hala la soo fooday ma qaadanaya barnaamijka wala adeeg gada la siyaabad waato farxaan oo soo tagay hal kamid ay u adkaysanayso waxay tahay darasayin labada gobol meesha u adkaysanayso kala shabeelooyinkana way jeceshahay qaladaadkeeda shabeelooyinka u badnaa shamis waa sax sida ay sheegtay Maryama shabeelooyinka hadii aan hoos dhex ka dhigo waa iska cad dhibaato kuma shabnaasina qalbi dhibaatada haysta ay soo baxda aniga juqraafiga gobolada xoogaa marka kuliba koonfurta marka loo fiirsho dhibaya dhibow ma ahanba waxaan maqli jiray il adka tan labada indhood buu adag yihiin il kaloo la qodano ina qatmada iga sugsa Marow bulac ma cunta adoo ka shaki maya jiir baan cunay shiiray ka timid laakiin Amarow shamis way naga qoslisay wax badan ay naga qoslisay qaladaadkeedana aad u badnaay marka sanad dhan 6 ilaa 5 qalad ama 7 hadii laga helo xataa waa iska caadi waa qof sanad dhan shaqeynaayo marka waa in loogu cudur daaraa intay naga qoslisaa wax la siistaleen hadaan ka yeelan leemahano wala qabta ma la khaway ana ma la khaway waxaan jeclaa markana farsameeyaqaankeena u baaqo waxaa maanta magaalada Dhuusamareeb ka dhacaysa doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ee maamulka Galmudug waxaana maanta u tartamaya xilalkaasi ilaa 4 musharax ammaanka magaalada Kismaayo ayaa saaka aad loo adkeeyay maxaa faanta shamsi maxaa faanta sidaan Dhuusamareeb ugu dhex jiraan Kismaayo bedeshay maxaa ka doontaa Kismaayo waa wareegda isku dhiga wayga meerisan jiray madada يا عمرو هذا الشباب هذا الشباب اللي نحب بدرس ساعدي هذا لو سمرنا كيما دوك اسمايتك ما حد يدي اسلام مريسي قولي انا قاعد برهان انا قاعد ساعه عمرو شمس ملاها دلهيس ايدو عاد جوجت اي غولد دلهيس وادي ورنها دلهيس كسو لو باهيه dhibaato caadi oo la iska shaqada jare waxaan ka rabaa Dhuusamareeb baa joogta oo galgaduud oo xaruntii gobolka galgaduud ah waliba Kismaayo inaad macna kalluun ma ku qabto macna malaag ma jeceshay aan horta waa runta Cumar kalluunka aad baan u jecelahay haddana wixii hadii lagu dhex jiro xogaa in laga yarnasto soo maahan waa soo wareegay baan kalluunka ma jeceshay mas malaag horta ma kalluunka jeceshay kalluunka jecelahay malaagan may adag malaaygaas ku cuni malaayga waxa laga qaadaa ma taqaanaa xabeeb waa laga qaadaa oo qofka dhunta waa xirmaysa maxaan ku raasay sidoo kale lafay leedahay laakiin kalluunka isku bixis waay sax hal mar la dijinaya marka waliga kalluunka kugu oga malaayga way ku tifayaan saasa ka raba waxa marka kubadda looxan maqli jiray iyo ad waxa ku siinaa ya ma waa maqli jiraan kuri tii il adeeg iyo tii dhag adeegan ku siinayna waxa soo dhidi ka wata waxaan qaataa anigu inaan tan gobolada inaan isku khaldeen soo kala wareejiyo waan qaadanaya xitaa dalmarnimada igu diideen waan qaatay waa ma hasata iga horka wax ka ilaa waligeed ma maaran
cumarow markaan waxaan soo dhaweynaynaa wakiil wareedka idaacadda kulmiye ee sanadkan uu nala dabaaldegaya xarunta wakiil wareedka waxaan u fahmay wariyaha uga soo warrama gobolka Hiiraan idaacadda Ismaan Aadan Carays dad badan aan fahmin mugtiin saas loo sheegay xarunta wadani oo partner la akhriyo aad iyo aad partner maxaan ka wada laagtay qaybka bahwadaag macnaha waxaa lagu xasuustaa barnaamijyada tartan aqooneedka oo kaleeto oo degmooyinka oo kaleeto adinka waa ka baxay Ismaan Aadan Carays wuxuu leeyahay maadaama wariyaasha kale gobolada ay maqan yihiin oo aniga xarunta aan joogo booskooda anaa buuxinayo waaw soo dhawo Carays intaadan soo dhawaan Carays qoona ma noo keento horta maya qoona waa soo sigdigan ku soo baxay kuma qaadin waa jeclaan sanadkan qoona iyo wax badan la imaadaan inta waaya maryan qoona ma taqaan adiga wax la'aan ma noo imaado macnaha maya qoona ma taqaan qoonada maya afkaaga ugu hor baladweyne ma tagin hadda tagi lahayd wariga mu ka hay dadka ka saawa kuwaas ay reereen hay qoon ana aqaano hay inta ka baxdaa inta ka baxda maxay dhulka ka baxda maya nooca geedka ay ka baxdo waa maxaa la dhahaa geedka ay ka baxdo anu horta meel ay ka baxda ma aqaan waa qoon ma aqaan miraha hal xiraale hay aniga filin la kuma qada qoon ninka cuno isaga ka jeewanta xabay waa ruta wax la cuno miya macnaha waa la cunaa maro ana aqoon meesha ka baxda haddana waan cuni karaa way isuga hal xiraale dhammaan shaqaalay u taala inta meesha joogto هاي soo soco waxa la ka rabaa qoonada ceelgaab ruwaay waa ku tal waxa la rabaa marka geedka ay ka baxda magaciisa obar ma haysi bar waano ya bara la yiraahdaa laakiin mid kala jirto qoonada ay ka baxda baarka waa sax laakiin si inta nooc u kala baxdaa marka ani waa ku kala aqaana jeebaala kamida tumaala kamida noocaas ya deeqaanto amaro agaasimaha ilaaha ku toosiyay hay soo dhawaad ninka Umar aad iyo aad ma santahay adiga iyo agaasimaha iyo Maryan iyo dhammaan shaqaalaha warbaahinta kulmiye ee bawadaag shaqaalaha warbaahinta Wadine FM magaalada Beledweyne waxaan filayaa horta maanta waa aad ugu faraxsanahay in ka soo qayb galay sanad guurida iyo qaladkii wariyash laakiin anigu gobolka ka soo hadlaa qaladkii iska yarba maxaa yeelay war qoran lam soo diray mugta adiga waxaan baralaaba alaabta siliftigeeda hadda lagu jiraa war qorana soo dirtaa war qorashay loo soo diray ma la dhageysanaa ma war qorana soo diray macna waa duuba soo diray macna waxaan ka rabaa hadda inaan fahamsiiso war qorana soo diray warka qoran lama dhageystay waa la akhristaa idaacadana waa laga dhageystaa warka qoran ma idaacada laga dhageystaa waxaan ka wadaa macnaha ulijeedka fil sentence waxa loo isticmaalaa shay sentence ugu jira sentence ugu jira u qaadaday waa gashay iska ilaaday hadda gashay balar maxaa ka doonay laakiin qalad inuu jirna ku sheegaan xasan horta waxaan ka rabaa burhan hal shay aan isla fahamno horta hadda qalad ma garan ma waa gali qaladka uu gala sheeg waxa waa war qoran soo diraa yiri warka qoran waa la akhriyaa lama dhageysto annagana waxa aan sii deynaa waa codkaaga ma hadaan rabo inaan qoraal soo diro durana inta ka akhrina maxaa ka akhrina maxaa inta ka akhrina waxaan annaga sii deynaa waa codka waxaan dhahnaa Caraysa warkaan soo diray dhageystayaashuna dhagtooday ku qaataan adigana xataa waxa taaganta war qoraalan soo diray see war qoraal annaga u deynaa waa qaatay ka socdo shakada maxamed uu ka fadhiisto wuxuu yiri degdeg qaladkii qarad lagu galay hay ilaa hadda laakiin wax qarad ma ma qarad ma dhici karo farsama yaqaan iyadoo labadii habeen ugu dambeysay ay dhaceen weerar madaafiic ay dagaalamayaasha al-shabaab ugu soo qaadeen waxaan jecelahay dhageystayaasha iska daaya xataa anigaan fahmin cidda weerarka lagu qaaday waa ay bal hal markaan aan dhageysano iyadoo labadii habeen ugu dambeysay ay dhaceen weerar madaafiic ay dagaalamayaasha al-shabaab ugu soo qaadeen laba arrin baa iga baxday xoogaa welwel yaro saaxiibkay uu qabay cabsi ku jirta iyo warkii uu isaga tabinayay oo isaga dan iska tabiyay warkaas waxaan filayaa meesha sentence ka maqan meesha waxa laga dhax jaray meesha maana sentence meesha ka maqan qafku soo xirmaa warka ninkii warka qabtaa jooga maxamed cali ama santa Umar horta warkaan subax sabti heedana ka qabta Carays idaacad kama bixin idaacada warkan wuxuu ahaa ciidamada Djibouti oo fariisin ku leh gudaha degmada Beledweyne ayaa al-shabaab ku soo qaaran weerar madaafiic marka Carays backgroundkii wuxuu ku yiri habeenada ugu dambeeyay macna background mara mugtay wararkii ugu dambeeyay waxay sheegeen background waxa la wadaa macna warkan ka soo xiray gabagabada Carays marka wuxuu yiri iyadoo maalin ugu dambeeyay tiro hoobiyaal al-shabaab ku soo qaadayeen macna ku soo qaadayeen ka reer Beledweyne igu soo qaadayeen marka dhaasay asaas ku soo aadi marka waa war yar oo aan idaacadi ka bixin laakiin Carays ka qirsax waa dhahday
kole maya laakiin ugu adag laga erayga ugu soo qaadan san u dhahay maba laga lagu soo qaaday waliba waa ku raaxaysatay sug wali ma aadan fahmin miya waxaan jeclaa farsamayaqaanka mar saddexaad inuu hawada u saaro iyadoo labadii habeen ugu dambeysay ay dhaceen weeraro madaafiica ay dagaalamayaasha al-shabaab ugu soo qaadeen yaa lagu soo qaaday warkaas waxaa hoose u dhikaas cumaro waliba si kalsooni loo aqriyay way aad ma santa caris oo ku salaamina halkaas qosan beeri waxaan aad ugu faraxsanahay marka in hal sano hal qalad bas liga helo waxay khibrad iyo macnaha experience aan u leeyahay saxaafadda ee tilmaamay markaas maadaama liga ma ninka nagu gaar male way arageena waa macalinkeena waay aris laakiin waxaas leeyahay asaga wixiisa wax soo duuban waaye barnaamijyada idaacadda dhan haddii la duubi lahaa yaaba qalad geli lahaa cumaro carees hadduu warkii leef u akhrin lahaa ama inta joogi lahaa 100 qalad baa laga qabanaa laakiin wuxuu ilaahay ku mahadinaa inuu warka soo duubo oo soo jirjiro isaga gacantiisa waliba isagoo soo duuba hal qalad laga sii yeelay hadda radio wadani qaladaad badan ku gala waa huba Allah ya baar barnaamijka horta sida aad loogu xiisay magaalada Beledweyne mugtaa habeen wuxuu baaqanayaa barnaamijka uu soo galay waxa aad loogu qoslaa dadka aad u hadlayeen maalintii isku furanka rag iyo dumarka sanadkii hore taas waa ka soo gudbay way aad baad u maasantiin waxaan jeclaa waqtigana waa inahayaa markana inaan ka gudbo saaxiibkay Careys waxaan jeclaa markana Farxaan ay hor yimid Farxaan soo dhawow waa in salaamadi iyo Faadumo waxaan rabaa suga waxaan maqli jiray hadal hilmaan kuma jiro laakiin tan hilmaan wax la yiraahdo ma jiraan be Faadumo yaa waay maya Faadumo yaa waay maya waxaan isku dhaxyaa waxay tahay inaan qalad liga hayninba hatta ba galu saaxiibo laakiin waxaan ka rabaa Faadumo salaamina meel kasto ay naga dhageysanayso sax haday dhageystayaasha kamid tahay aad iyo aadaan u leenahay soo dhawow Faadumo maadaama Maryan oo ma ka bilaabata faal lagu qalday waa qalad oo dhici kara ku fogaan hay ma ku fogaana Faadumo dhanbaal salaamaad hawada u mariso Soomaali Faadumo jacaylkani waa fidbaahayo ku fidaya feeraha intaas ma u dhaafay laakiin waxaan ka rabaa sanadkan 2020 Febraayo 9keeda miiskaad saaran tahay 10kii oo Febraayo ee 2019 iyo 8 Febraayo 2020 maxaa isbedelay horta sanadkii hore qalada laga qabtay laakiin sanadkan dadaal badan aan bixi wax badan aan juhdi badan ku bixi marka uma maleynaa in qaladaad maanta laga hayo waa nin isku kalsoon dadaalka bixisan ka dhaxarki doonaaye maya waxaan jecelahay il adeeg iyo dhag adeeg iyo af adeeg waa soo aragna moogta carab adeega hadda noo jooga carab adeeg dadaalan bixi bal dadaalka bixisa sheekay ha bixiyaasna u sugay ay maanta ciidamo booliis ah geysay degmada Luuq ee gobolkaasi ilaa 3 diyaaro ciidamo booliis ayaa la geeyay halkaasi ilaa 3 diyaaro oo booliis awlid 3 diyaaro oo booliis awlid anigu ma fahmin dhageystayaasha bal inay fahmeen in kala aan weydiiyo ay maanta ciidamo booliis ah geysay degmada Luuq ee gobolkaasi ilaa 3 diyaaro ciidamo booliis ayaa la geeyay halkaasi ilaa 3 diyaaro diyaarad oo ciidamo booliis ay saariin diyaarad ma dhawsaabe diyaaro diyaaro 3 diyaaradood waa maya 3 diyaaro oo yiri diyaaro horta ma jirtaba hal haday tahay xitaa diyaaro ma la dhigi karo جمع اسكبت تاس عربك لابتوب مان يا هوي عرب هذيك انت اسك دافتي قاده قلد كاي تي halka hal qalad leeyl ma ho horta ma qaadata ma halkaas qalad waqaati ما halka qalad bisan ku ayna ku dheh waa iska ka fasaxayna laakiin shariif diidan shariif de waxa isku soo farsameystay oo banaanka isku soo qaatay abu halkaas ka aqli ma waa ka xirib halkaas shariif shamis walaalkeed hay wadada u dhaxaysa Muqdisho wadadii waa istaagtay ilaa haddana ma socotaa la yiri wadada istaago sabiya hay مش فهمت مش هو سؤال شريف waxaan u maleynaa meesha in wax badan ka jaray wax ma ka jirin hadii wixii laga jaray anaga waxaan rabnaa qaladka meesha uu ka jiro ana waxaan dhahay wadadii dhismaheeda istaagay ma dheenayay arna waxaan jeclaa bal kale ina farsamo yaqaan igu celiso ninkan ila adeeg inta iska dhaafo carab adeeg isku bedelay wadada u dhaxaysa Muqdisho wadadii waa istaagtay ilaa haddana ma socotaa la yiri hay wadadii waa istaagtay ilaa haddana ma socotaa la yiri hay
meesha xarba aan ku darin suluugu qaba ninkan mugtahay jumlada hadii la dhihi lahaa dhismaha wadada macnaha meesha ma ku jirto wadada waa istaagtay ninkan mugtahay ilaa haddana ma socoto u dhooya marka dhisma ma ku jiro meesha maya wadadii oo dhismaheedu uu socday istaagtay waxaan jecelahay hal arin qalbigaaga waxaa ku jirta inaad tiraahdo dhismaha carabkaaga ilaa kuwa kuudeeda intaasoo galo shariif intaasuu gaadaya soomaa marka sanadkii oo dhan hadii laba qalad aan galay intaas ay u filan soomaa laba qalad haddaa gashay okay waa dadaashay loo qalay inta ay soo qabteen ma loo qalaynayo runtuu sheegay hatta dadaalkiisu ku bixi laba qalad waa maasantaa farxan waa maasantaa waa tahay cumar oo markaan dhanka iyo hablahan u weycanaynaa xafsa qaliif cumaraan soo dhawaynaynaa xafsa ama waxaan ku dhaha mataqaana adiga haddaad aragta xafsa un taleefonkay ku mashquulsanta ma waray ka diyaarinaysaa ma barnaamijya ka diyaarinaysaa ma idaacadday ka duubaysaa ma garan kara laakiin waa u heesta dee jaceylna ku mashquulsantahay waa tahay xafsa soo dhawo sanad guuri wanaagsan mari muxudiin iyo cumar teejir barnaamijka soo jeedinay saaxiibada idaacadda iyo studio cumar yare iyo maryan yare idhano intee ku jirtaa tiimka dhaadheerka idaacadda cumar yare cumar dheere intaas aan rabnaa dhammaan saaxiibada studio gursadan waxaan leeyahay sanad guuri wanaagsan aan ku leenahay xafso soo dhawow xafso 10 February 2019 ilaa 8 February 2020 ma isleedahay sanadkaas inta aad shaqeynaysay qaladaad ama hafashooyin aad gashay xilliga wararka ama barnaamijyada aad tabinaysay waa isleeyahay qaladaad waa gashay waxaan isleeyahay kale qaladaad laga soo qabtay iyo kuwa baxsaday intaba way jiraan oo aad xasuusan tahay ma jiraan oo aan la soo qaban may aad xasuusan tahay in la soo qabto suuragal oo farsamada uu keedka uu ku jiro sheekeeye laakiin aad qalad aad xasuusanto kugu taagan alla ilaahay qaladkaas marba idaacadda ka gashay marnay qalad aan kale wax xasuustaa laakiin marka farsameeyaqaanku uu yiraahdo waxba uma hayo ama waa intaas ku yihiin ma sheegi doonaa inaan hordhac maro ayo ya qaladka aan u saarna marka ayo farsameeyaqaan ma aan way gaad no xaqi ay socota amaliyahay warka qariiri ku socda amaliyahay oo ay gaad barnaamijka galab wanaagsan ayaan raadayay iskan maxaa fahantay وليبا هذا فهمي waa fahmay galabki markii la jiray barnaamij galab naqsan oo markii qalad kan la jiray aniga Shariif iyo Burhaan dad badan aan dhaxmartay qofka hortan codkayga caadin aad u gaaban yahay marka warka akhrinayo xoogaa laga yaabaa in isxoojiyo xitaa marka qaranka galabnaas akhrinayo ma aqaan sibuu codkaygu dilan yahay sir marka runta loo hadlo laakiin codkaaga ma sha Allah cod gaabanahay macnaha laakiin codkaaga kala dhageysigiisa ma sha Allah inuu saxmeyn anigu waan ogahay yes waliba waxa kamid tahay wariyaashan sida gaarka u taageero ay waxweyn ay tahay hadii waa lagu noqon karaa codka waxa hoos ka leeyahay waa adiga asaga markuu wuxuu leeyahay wixii daafur hadii waxaas mogtahay tiisaani marka dhago jara kuma siin waa adiga ayaa la yiraahdaa heeskan waan hees akhriyay qaadilay hadana waa cadaaladu waa lama huraan waxaan jecelnahay waxay codsatay in loo shida marka loo dhageystayaashay wada dhageystaan aan u daaro ma aan way gaad no xaqi ay socota amaliyahay warka qariiri ku socda amaliyahay oo ay gaad barnaamijka galab wanaagsan ayaan raadayay heeskan ايش فيري adigu isagu wuxuu ku yiri barnaamijku waa barnaamijkii galab wanaagsan ayaa la yiraahdaa heestan waxay u egtahay marka way u egtahay sax way u egtahay waa la suureysan karaa laakiin maalinkii intii aan ku doodan ku taaganahay waa adiga ayaa la yiraahdaa heeskan wuxuu dhameystir yahay jumlada aan soo bilowday waana jumladeeda dhameystir jumlada hore laga tagaa dhooysa ha way maxaa looga tagaa waa kan waan dhahayaa buu tal fiiri waxaa jira sanadkii hore inaan u ballan qaaday dhageystayaasha qaladaadka iyo dhahyada ka baxa radio kulmiye ay dhageystaan qaladaadka aan ka galna laftigiisa hadda miiska maanta waxa saaran waa aniga iyo Maryan Cabdulle macnuu markii loo fiirsado qaabka wax u baxayaan waxa la dhihi karaa midba meel laga keenay laakiin lagama keenin adiga fiiri fallaar waxa la yiri gilgilisha kaaga ma waa gilgilna le ma ahane waa rafaa tam yeelay sababde waa adiga hees akhriiri qaadaal laha waa adiga barnaamijkan dafur wahay barnaamijka dhameystirna waa dhageysan kartaa dhageystayaashana waa loogu soo xidhay barnaamijka galab wanaagsan adiga la yiraahdo ma dhahay heestan ayaga soo dhaxgal ana warkaan ha watay ayaga soo dhaxgal Umarow
xafso ayada waxay kaga dhigtay heesta magaceedu waa adiga laakiin burhaan wuxuu leeyahay barnaamijka galab wanaagsan ayada marka waa adigii kor keentay macnaha waxay taagan tahay aniga hadlaay muxuu iga soo dhaxgalay waxaan jecelahay dhageystayaasha mar kale inaan u iftiimino inaanu codkaaga meesha isku jirin inaan hadda la maqashina iftiimi codkan dheerey suga waxaan jecelahay garsuurayaasha inaan dadweynaha ka dhigno marka ugu dambeeyaan jecelahay inaan hawada mar kala saarno barnaamijka galab wanaagsan ayaan radaa heeskan burhaan meeshaas waxaa ka soo laabtay khaladkan sida loo malaynayo maaha cadaaladdu waa shay muhiima gabadha marka intaadan barnaamijka dhihina waxay tiri waa adigaa soo galay ayaa la yidhahdaa heeskanay tiri halkeeday ka wadatay kuma soo laabanin heesta aan markaan soo qabanaya burhaano waxaa la yidhahdaa waa adiga ma aysan dhihin laakiin waa adiga inta jiri aad ka dhex gashay kadib ayaa heeskan la yidhahdaa tiri barnaamijkay ku daba qabatay aan kuu sheego cumar saas mahaba heesta ba dhamaatay horta barnaamijka heesta furitaan wahayd way dhamaatay siiqada barnaamijka waxa waaye marka heesta ay dhamaato haddii xoogaa kaftan uu ka soo baxo in lagu kaftamo kadibna qof wuxuu yidhahdaa heesta saas waaye ama barnaamijkana galab wanaagsan ayay daafur noogu tahay marka waa aamusta xataa xabsaada maqlis mugta shib ee tiri barnaamijkeena galab wanaagsan ay mugta ayaa la yiraahdaa heestan ay qabtaan la soo waay marka doonta waqtiga inahayo doonta intaasaan ku dhaafno waxaan jeclahay dhageystayaasha aan u daynba studio waa laga buuxaa war khalad ma un qornaa maxaan ku dhaahdaa xabso base waa ka diidnaa maya isuga fadlan isuga inta ogol maya isuga inta ogol in xabso khalad loo qoro gacanta taagto inta aan ogolayna gacanta taagto xabso qalad malaha taageeryaal badan ku darsanaa qaladaad kuwan ka mudan ani aan galaa jiro laakiin la soo qaadan waan ku faraxsanaa boqolkiiba oo qarsanba hadda maadaama aan la soo bandhigin hal mar ma nooga sheegi kartaa hal xabo waxaa jiray caasimada wadankii Ecuador ma aha caasimada wadanka maalinka aan soo saacada Burkina Faso ogadooga ma ahane waxaan u sheegay weligeed waxaan la maqlay waa ma aqaan si un waa ku raftay ilaahay wuxuu ugu bixiyay farsamada waxa ku jirtay akhrameed masdaaq ma aqaan si aysan u dareemin aan qalad galay waa soo fakaday inta ay midagaasina ay qosan xayirgaasina wadee waa garan waaye yalla farsamada dhan ma noqon si aan la arkin markii laba maal camal ka soo wareegtaan xayir qaladkaas galay ما شاء الله هذا وما سنت قلت كاجي بركة قلت كاسك صحيح هذا وما سنت ولي قبور وضر هذه ما كانوا يزادين ما قمر ما بكره ولي بقى إذا اتصل يقول لك سنة مني برد هذا بركز إجوت ما كره ولي هالكاس نقول صعوتان وريديو كل مية برنامج كانوا برنامج كي سنة الله ها فالشضع أما قلادات ككذا على الراديو كل مية مدة السنة كأه وده حيسا سجال كفبراير إلا سجال كفبراير سنة والبا وسجال كفبراير إلا سجال كفبراير هذا نسيف فهمسيو هذا واحد وشوفنا سجال كفبراير لبضو كوني لباتنكا وحن سكو إيمان دونا دي الله ودري الناس نفط النو باقي النو قديقو سجال كفبراير كوي لباتنكا هذا حيار فليه محمد علي وكمدا رسول سيارياش راديو كلمي أهنا مضحة برنامج هذا راديو كلمي ورما قلت ما هو اسكو حدا اوكي وا انا قلدان مودا اهنا مكدرا ما قاعد كريد ابو ان كدرنا كدا اهنا انا كداني انه اذر ان كدرا لا اذر هالمره هاي شمس اهنا تفتر ku xigay kadaad kul اهنا ku xigay تفتر ku anka radio kul اوكي dul misbirsado اهنا هيا ninka ugu cad idaacada oo اهنا wiilka ugu cad idaacada suuqada ay wado kaas suuqada ay wado ahna wiilka qalin laha idaacada ahna wiilka ugu dabeecada wanaagsan bas halka ku ekaato halka ku ekaato waxaan ka jeclaa marketing soo kuma shaqeynaa marin inta kale ka shaqeynaa qaybta marketing ka idin qabilsanaa ma saana caadi laga bixiyay way waxaan ka rabaa soo dhawo وما سنت عمر ودي مريم سنة جرو نكسن طبعا وسنة كلمات عني تهاي وبرنامج كان خيب قليو حنفيل يا كل تورت صحاب بدن ماشي ما كل عيبوين إنه إله ما حاب لي رام جيران ما لا بحد يسكت لي تو سنة ما هذا حاوي هاي ضل لقى قبضة تضوى ماشي نجوي هو هذا دمي صوص عدان وهذا هل هذه لقى قبضتي هذه بقول لقى قبض هو اسكو ماشي ما وكل قروح بدني هجا نيك هلك لقى هيو يعني نيك لقى هاي تدوس مان
maxamed cali oo inta kusoo hor fadhiisto garta qaato oo baxa erki barnaamijkan intaa ku jooga weliba waxaa nala jooga stuudiyaha wariyaal aan qaladaadkooda macnaha lasoo bandhigi doono oo barnaamijka qayb ka ahayn macnaheeduna ma ahayn in barnaamij sanadkaas inaysan qalad gelin laakiin farsamo yaqaaniintu ma haleelin ama ma helin qaladaadkooda marka maxamed cali haddii 7 wariye laga qabto macnihiisa ma wariyahaas inuu wariyaha ugu qaladaadka badan idaacadda uu yahay isagaan laga yaabaa sagaal hadda ka shimid 7 wariye laga qabto macnaha 7 qalad laga qabto macnaha 7 qalad ha marka hadda shamiso kala ayada hogaaminaysa hadana kalsooniyo u fadhida maxamed inay si jilbaha ay gacmaha la isku gashtaa qatarabo ma nafaay meel fiican fadhisa ma ka taqaan markii la qaadanayo koobka alwaax ma aragtay inaan qaadansan ma horta ninka alwaax qaadanayo inaan qaadansan ma marka suuqin kala saara waxaan ka rabaa qalad waa dhaca waa sax qof bini aadam ah oo aan hafanayn ama qalad ka dhacin ma jiro waa sax waxaan ku faraxsanahay ninka la Cabdiqani oo sanad walba qaadan jiray asii ninka la Tuuriya ku tirtama jiray haddana Cabdiqani wiligiis ma arkin asoo isdifaacayo sax waay loo taagay asii sax le waay adiga marka il adeeg waxaan soo maray il adeeg dag adeeg af adeeg arab adeeg adu ur adeeg naga dhaaf ma wajaadeeg waay marka Umar hortani waa filayna tan qalad galay laakiin badno hal iyo laba ka badno qaladkan garanay horta hal iyo laba ma qarsantaa hal iyo laba adii si halan qarsanaa wax kale horta hal ma qarsantaa ya hal waa qarsanaa hal hadaad qarsan tahay boqolka kalena waa qarsan tahay farsamo yaqaan gafgaf lagu sixiyo godob dhashiyo talawada guracan waayahay danjira caalin ayuu kaasi ahaa weli waxaad dhegaysanaysaan dhegeystayaal barnaamijka falanqaynta wararka idaacadda kulmiye ee muqdisho haye astaanta aad maqasheen maxay caan ku tahay xog waraysi muxuu isaguna sheegay falanqaynta si dhegeystayaasha ay u fahmaan marka aan hawada u saaro gafgaf lagu sixiyo godob dhashiyo talawada guracan waayahay danjira caalin ayuu kaasi ahaa weli waxaad dhegaysanaysaan dhegeystayaal barnaamijka falanqaynta wararka idaacadda kulmiye ee muqdisho maxaa maqashay waa barnaamijka falanqaynta alle barnaamijka xog waraysi sababtan waxay ahayd badanaa wax u badnaa sababta iska dhaaf horta waa qalad sababta waxay tahay waxaan u badnaa badanaa barnaamijkan la yiraahdo falanqaynta xog waraysi habeenkaas waxaan filaynaa ahayd habeen ramadaana wala dareemaya xataa xogaa waa isku keenay kastoo horta la keenay muusikada wax isku raadshay laakiin ka maqnaa studio horta sidoo ka maqnaa tamaan xasuusta marka qaladkan galayna studio soo galay Burhan Diini anaan telefoon fiirinayay inaan ka sheegay waxaan ay barnaamijka falanqaynta marka ay Burhan gacantii tahay falanqaynta tiro yidha kadib aan kala waxaan ay barnaamijka xog waraysi dhageysanaysan marka intii la jaray waan qalad iska easy waa yar yahay marka boqolkii waa hal waadi macallin dugsi ma jirta saasa u dhaysantay gacanta inta mataqaanaa kale dadku markii ay dhageystaan tusaale astaamaha barnaamijka astaana dhamaad moota kaas wuxuu ahaa danjira caalin Allah hadana ka astaanta ma danjira caalin marka idin sheega maya stuudiyahan ka maqnaa rooba sheegay stuudiyahan ka maqnaa marka waraysi uu ka dagay ba astaanta gasho waa maqnaa idaacada kale waa musaysa ya hada waan ku qasbanahay inaad dadkii oo codkiis baxay maxaaba ay haduu yiraahdo halka nagala socotaan waa radio kulmiye barnaamijkuna waa barnaamijka xog waraysi waxaana dhawaan dhageysateen ama codkii ugu dambeeyay wuxuu ahaa halka tagay ay farxan horta laba qaladood idin muuqdo wuxuu yiri studio waa ka maqnaa kaasna wuxuu ahaa danjire cali marka soo maqan oo dijimo wareer farxana war kala soo saar macnuu studio ka maqnaa haddana wuxuu yiri markaan imid ma dhihin wuxuu yiri studio ka maqnaa waxaan iri yiri asoo studio ka maqan ma uu sheegay haddana inuu kaas caalina waaba qalad kalaba fiiri darbiga wuxuu garaacay iska daaya ana maxaa ku radaa barnaamijka labada barnaamij horta isku xilli ma baxaan habeenii maalin bay kariyo marka adaa dadka su'aalaha weydiin jiray maxamed cali waxaad ii weydiisaa habeenka waxa ka baaqdo isugu dhex qalday habeenkii maalinta astaanta xog waraysi iyo falanqaynta la isku qalday madaxweyne Axmed Ducaale Giil Xaaf ku hanjabay inuu ciidamada Mareykanka kala soo baxay wali waa cambaareen aniga waxaaba hadda ma shami su'aasheedan bajeclaadaba maalin cadeeya barnaamijka falanqaynta la qabtaa kana habeenkii la qabtaa oo waliba 3 saace maxaa isku keenay waa ku sheegaya fiir waxa dhacay mararka qaar warka subax iyadoo la aqrinayay warka habeen idaacada sabab maxaa manikan baa warka subax buu aqriyaa mar maahan ashan waxa la jeedaa waxaan u badnaa barnaamijka falanqaynta qaban jiray u badnaa aniga ramadaanka xog waraysi kuma badneen marka halkaas habeen xog waraysi buuxinay
marka barnaamijka falaqeynta ay ku soo laabanaya waana halka barnaamijka idaacadan ka qabta marka siyaasad ahaan way haddaba aniga barnaamijka aan ka qabto idaacada waa halka barnaamij loo yiraahdo murti maaweelo hadda emaya barnaamij kale ma qabto waa halkaas barnaamij hadii lagu dhigay falaqeynta ay suge barnaamijkaas in badan ku celceliya carabkayga uu la qabsado hadda waxaad moodaaba inuu aad iigu fudud yahay hadda barnaamijkan aan wadaa inta aan wadayaa ma maqle murti maaweelo wala jarago hadee ya maqle qaado hay sug dalaala yimid عمرو hal qalad adiga hadda laga haya haddaad isogta maxaa leedahay laba barnaamij 2 saac ay bar soo galaa waxa dhacay 3 saac soo galaa habeenkii ka horta dhimala oo 9 Febraayo u soo libisatay libiskaaga aan ka dareemaa in qalqal kugu jiro waxa aan sheegaa 3 saac ay bar waxa soo galaahay waa barnaamijka xog wareysi wax kala ma halkaasaan ugu gudbina waqti maayno aad oo maasanta qaladka labaad ay aamin ayaa leeyahay taas idin duceysay Farxii Xuseen maxamed cali ayaa markaa barnaamijka tooqiis waayay warqad meher aroos ayaa gacanteeda ku jirto aroos maxaa qabatay warqadee rooshay kaliya dalay ma qaadatay waa qaadatay bas laakiin tabiga dhaaf waxa uu yiri markana waxa gacanteeda ku soo dhacay warqad meher aroos iyo meherna laba kaliya meher waa nikah la isku xaleelayna arooskana waa wiil fiyoore fiiriya waa gabar fiyoore iska abulo irdaha kooy ma kaasa saas kaliya haye qaladka saddexaad ma qaladka saddexaad guud ahaan dhegeystayaal waxaan soo gaarnay qaybihii dambe markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii kalamaan sababtu waxay tahay horta waa qalad dhacay waxaana ku timid waxaan umaleynaa tahay barnaamijkii ugu horeeyay ee ramadaan kadib ee falaqeen la bilaabo calashan waxaa ula jeedaa ramadaanka barnaamijyada caadiga siyaasadda kalamaan marka lagu bilaabo kalamaanta istaagtay calashan kalamaan ramadaan ma jirto ma ogta marka barnaamijkii ugu horeeyo kalmaan lagu bilaabo bacda ramadaan baa anigu soo aaday markii guud ahaan aan iri baa Cabdi Fariid taagay wuxuu yiri kalmaan ay la birtaa markaan kadib waxaan iri guud ahaan markaan barnaamijkii kalmaan laakiin qalad waa qalad jiro waaw wariyaa fiicaya maanta waxaan jecelahay Shariif Sheekay ku fasaxnaa qalad kale kuma hayna ma ku fasaxnaa mid saddexaad xogaa ma had wax ma harmo hode waa dhamaatamaano waa fasaxna maano Allahu akbar fadhi dhawaan ayaa laba dhinac khilaafkooda waxa haliyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana la sheegay in ay arintaas ku guuleysteen maanta madaxweynuhu furmayo waxaan jecelahay dad badan oo hadda stuudiga qaarkood ku jiro in aan fahmin waliba hadda amaala kamid oo idoo qoslaysa maarkooy waxaan jecelahay dhageystayaal badan oo inaysan fahmin inaan mar kale hawada u saarno dhawaan ayaa laba dhinac khilaafkooda waxa haliyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana la sheegay in ay arintaas ku guuleysteen maanta madaxweynuhu furmayo عمرو مدحوينه ابو محبوس هذا محمد علي ساسو له مدحوينه وفرم ياس وحكوده ما سيده مدحوينه مشرميا اوكي واي هاي محمد علي مدحوينه قلد وقال والله يا ان الحراق بقى حي فرعك وابا قلد وين محمد المديب الاب لا خيرنبا محكمه ان لا ساري اي محمد ني وركان وحو ليغيا ور انا دحين سك halkaas joog waxa tiri war aadan dhihin oo kuula eegay اقرا kaale اقرا gacanta taagaysa waa farsamayaqaaniinta radio kulmiye kamid tahay mar horta waa mahadsantiin sanad guro wanaagsan maalك محمد خلط كان uu galay falaqeynta barnaamijka falaqeynta waa codkiisana meesha yaala codkeena ma codka baxay codka Maxamed waay wuxuu ka hadlay khilaafkii u dhaxeeyay labada gol ee baarlamaanka marka ay dhawaan waxa furi doona madaxweynaha Yurubiin uu yiraahdo hafasha ka dhacday ee ogolaada qaladkiisa dhawaan waxa furmi doona madaxweynaha ana ka qabtay tii way ismina mawduuca ka hadlay sheegtay ma horta mawduuca waa og yahay madaxweynaha wuxuu furmay maalintaas labada aqal baarlamaanka golaha shacabka iyo aqalka sare kulan ay lahaayeen ama kulan guud arniyo faracadayga naga dhaafno ma yakan wallahi ma furo macquul ma haniyo abu suk darbi ka gaarta dar macquul ma haniyo waxa sheegaysiin Umar iqra u dhahda markay suk waxaan rabaa inaan dhageystayaasha fahamsiiyo codka ay maqlayaan ma shamisa ma Maryana ma Farxana ma Burhana ma Dalhala ma Hana
farsamo yaqaana maqshibe dhowaan ayaa laba dhinac khilaafkooda waxaa haliyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana la sheegay in ay arintaas ku guuleysteen maantana madaxweynuhu furmayo ardide meesha waxba iga jiri kale doorta ma saliim ma kan hadla jaray maaha codkan waa isku hay Shariif Shake horta dad waaweyn oo wax wada fahmi karaan nahay moogtahay codka markii si uu lahayn inta la jarjar la isu kana sidaas ma ahaanayo marka maxamed cali tan way ka dhacday wax weyn ma ahano maxaa la yiraahdaa في أنا عدالة تاجنا. ما يواي وقاضنا ياي. وحلا سبعي وقات هلا سبعي. سوقات قلت كلا لو سوقت. ما في وحنا حسنا. ما يا محمد هدر تاندو سكريحة قلت معنا إذا عدوا قبل حي برنامج كنا وبته دود دي داي موي لكن سبعي لك. ما قبل واقع قلاد. واي حتى بواقع ضي هالكسر كاتو وقف صحيح سما. ما يوحنا أوجن وصوص عني عبد الغني. مركب واسك فرح سنة دني عادي. هاي فرصة ما يغان. in baaritaan lagu hayo gaariga qaraxay sida uu ku soo gaaray halkan isla markaana taasina jigboontiyada laba maxaa saaxiibka laban kaaya aqoon hayo soo kumeeraysan bas la meeraysiga jooti maxaa haysaa adiga aan hal qalad waaya adiga maxaa haysaa laba halkan markuu leeyahay madashaasi ma joogo ma iisugu adiga maxaa haysaa laba hay maxaa haysaa farxan aniga waxaan hayaa laba qalad adiga maxaa kula tahay ni horta warka wala soo jaray warka waxay aad fiiri waxaan ka hadlayaa fiiri waa sax fiiri waxaan ka hadlayaa sentence oo dhamaanin jumlada ka socoto malakiina meeshan waxa laga soo qaatay kista aan leeyahay halkan soo gaaray halka aan ka hadlayo waxay tahay warka qaybaha dhexurka imarayani halka waxaan kari waayo jigboontan kari waayo qaraxan wuxuu ka dhacay meeshan sayidka jigboontan kari waayo waxba waqtigii aan isaga qaadan jigboontigan ka qaadanayna qaladka soo ogasha bravo عليك qalad ma kari waayo qalad ma ka qantana adiga iladka عمره محمد داي wuxuu yiri markuu soo fadhiisanay dad badan qaladaad badan qaateen oo inaan ka fiicnaada laga yaabaa hadda wali waa la sii socdaade waliya waaga wada shamisa ka soo baxdo is waaga waxaan wax ku keenaysaa wax ka jiri ma laha cumar hadii aniga loo xileysiiyay waxaan rabaa in halkan laga ilaaliyo maxamed xileysiin lahaa nana wala siina wax ma buluug siina baad laga soo celiyo numberka shamis hal buu jira hal bas hadii mid kale la keeno shan qalaad ay keento ugu iyo hal mid islugsana ka saarba kaas mid ka dhimo ku dar way waxaan jecelahay maxamed cali waqti ay nahay moogtahay maxamed cali wax kale isku turaysaa ma yaniyo waa intaan hadda waliba muran ka qabay laakiin wasala barak maadaama aad tahay madaxii barnaamijyada ahna war soo saarayaasha radio kulmiye ahna wiilka ugu dabeecada fiican ahna wiilka ugu ahna waa ka dhaafna astaghfirullah ku daritaasna waato marka intaas ay loo joogto aad u maasata waana ku mahadcelinayna waana ku ceeb qarinaynaa idinkuna ku mahadsantahay xaysinta ismaysan aywa dhawaatay عمره markaan dhanka iyo hablaha hadana Amaal Yuusuf macallina markaa soo fadhiisatay Amaal soo dhaw sanadkii ugu horeeyay kulmiye ku wada qaadanana waa ku faraxsanahay aad u maasantahay Maryan Muxiidiin oo ku dhawaha barnaamijka sharafeen inta Amaal intaas oo sano isnaqaano wali studio isaguma imaan aad iyo aad maanta ugu horeysa waa shime iska saynay ilaa yaranteen laakiin ani waa idinku dacayarahay moogta marka la fiiriyo awar alma jidka ay celin jirtaan aad ma jidka ka celin jirto adiga aniga jidka iga celin jirma ayada jidka celin jirto soo gaarin cimriga Allah nasi amaalay cimriga Allah amiin waxaan ka rabaa soo dhaw cumar aad u mahadsantahay oo ku faraxsana inaan maanta meel wada joogno inagoo wax badan iska naqaanay hawada runtii aniga maadaama aan dadka ugu dambeeyay kulmiye ku soo biiray wax badan la igama hayaan jeclaa hay mar Amaal hal ilaa laba saddex ilaa afar taas warkaas dhanba adoo iga gaarin af adeeg il adeeg arab adeeg fara adeeg dhaga adeeg waa soo marnay maxaan ku magacaabnaa maya waa qirsan hal waxa jirta qalad oo xasuusanahay oo markaan saas idaacada ugu soo biiray ad maalmo aan joogay dabcan si kama wax ku dhacay oo wasiir aan u maleynay inuu Soomaaliland inuu dawladda federaalka Soomaaliya uu yahay Soomaaliland uu ahaa way horta wax kasta waa kama wax kasta loo galaan bajirin ba barnaamijkan ba waxa hafasho waayba horta Cumar Amaal way fiican tahay haday leedahay qaladan xasuustaa waxba iga dhacay dad badan oo maanta rafanay baa waa hal xabay sheegaysa laakiin jawaan markiisa ma la soo bixiyaa baalay laga yaabaa ay farsamo yaqaan waa duhurnimo sabtiya 1 bisha 2 ee January sanada 2020 warka duhurnimo ee idaacada kulmiye si wada jir anigoo Amaal iyo Burhaan Diini Faarax ayaa u soo jeedinaya
fiir waxaa laga yaabaa farsamayaqaanintu way soo qabteen annana waa fahamnay dadkana dhegaysanaya qaarkoodan fahmin waxaan jeclaha mar kale inaan dahwada u saarno waa duhurnimo sabtiya 1 bisha 2 ee Janawari sanada 2020 warka duhurnimo ee idaacadda kulmiye si wada jira anigoo Amaale iyo Burhaan Diini Faarax ayaa u soo jeedinaya aada u mahadsantahay Cumar sax waaye waxaa jirtay in maalintaas aan warka akhrinay maalmo ka horeysay aan akhrinay maalintaas ka horeysay dabcan aan akhrinay waxa lagu jira January February 1 ahead marka waxa ugu safgaraysnayd inay January ay tahay marka xalad inuu ka dhacdo aaminsantahay wax weyn maalag wafir sugbar horta waxaa raba bisha 2 iyo Janaayo 2 kala yihiin January waxa maya February 1 ahead January way soo dhamaatay hal maalin loo dhaxaysay adeega iyo hadal adeega inta iska dhaaftid waxaan ka rabaa khaladka ma qaadad وقت لكن لكن تحت هذا هل مالنا ودحيسو انا وركي مادام وركي دور درعد igu qafilnaa inay bis lagu January lagu jiro ay waxay noqotay February qoranta in February bisha 2 tahay waxaan kaloo ka rabaaba hal maalin saacada le waay saacada waay hal maalin saacada waay saacada iska dhaaf daqiiqadaha hadii u dhaxayaan daqiiqado hadda matalan caawo kale saacada 6 saac waxaa isbedelaya sanadka cusub ee 20ka waxay noqonaysaa 20ka 20 Soomaa hadii 6 saac iyo hal daqiiqo aan ku soo waco ee aan ku dhaho sanadkii 2020 ma qaldanahay sax waa hadda ba khaladkaaga qaaday maadaama uu warka duhur war adiga warka habeen iyo warka galab iyo noo kala saari waxaan isdhaayay way amana degdegno ugu jira jilcino abay ma waaye ogala waa ka keen halka saxbaa hubta Soomaa kaas iyo January ha bas maybe qalad kale ma jiro aslada macna laba qalad ama saal qalad January iyo بس أكتب بس جنوري حقيقة أنا قلد ما والي وديسي طبعا بس ما بلا أركن بيعد بس كخادنا halkaas oo kulamo kula qaatay saraakiisha iyo ciidamada xoogga dalka Mareykanka iyo kuwa AMISOM sareeyo guuto General Yusuf Odawa raage ayaa wax uu bogaadiyay askarta iyo saraakiisha kumaandooska xoogga dalka الله نبحي أمل ما حفنت waxaan fahmay inaan General Odawa magaciisa aan miya soo gaabi mise magacaan dib u dhigay ayada baad shaki ugu jira anagu wada maqlayna waada u maleynaa inaan soo gaabi yani waa soo gaabi oo ma dhaaray maya General saas fiir waxaan rabaa ma ku joogay ay tamleena marka Yusuf Odawa raagay صارنا مكسر هرمري سموكته قرب جوجي هذا ملينا هذا تريادو تيجر وصو قابسته عمر حبيب نورنا واتقانا لكن هدي ماقعي عمر حبيب نور آدم أخرين ما قلت كلا حداد أخرسو ماشي خلط مكجرها كستو أنا هذا يجلس كذا في أخي ما ازدفاعه ازدفاعه 1 minute ما دام الدولة ده هذا جرت مقاعدة يوقت كائن لكن وحواتها صادق كنت ما هني عقاير ما قرباسي لونه حلو حسنا مريكا كمان لقيت ياوي محاكا ياوي ما يسمحوها جنرال أودوا يوسف راجي هذا ما عاد هذا يوسف راجي جنرال أودوا يعني ما يوسف أودوا راجي وازدمري هذا غلط كان وحول نو بكتير هذه قرب كان بالليل ما دام قرب جوج أي تهاي مقاعد الصومالية ده بقى ما سيستا أذكر الله واي عمل واسك كيف صحينا ما سيستا وانا مركله خلاص دمنا إذا شغلتنا keep going تكر يا soo fadhiisto qofka maanta studio laga joog weysan oo qof kasta oo qalad galo kula daaranaay macnaha dad badana kula daaran doona Cabdiqani ama Cali soo fadhiistay shamis waa fadhida waqtiga aad uu noogu yaray Cabdiqani soo dhaw marka hore waxaan feefanayaa inaad waqtiga soo gaabsataan wax walba aad koobataan aan waxaan idinku adkeenayo ma laha wax koobanayna waqtiga aad noo hay soo koobta ani kulli waxaan aaminsanahay marka hore marka la salaamay saaxiibkay Tuuriere booskiisina difaacan diyaar u ah way aad ma santa khaladka koowaad aan jecel maadaama aan kuus ka hayno kuus dhanka kalena haddaan dhuusan mareeb eegno
magaaladaasi waxaa ka soconaya shirka dib u heshiisiinta galmudug iyadoona lagu wada in maalmaha soo aadan ay ka dhacdo doorashada madaxweyne ee maamulkaasi jubbaland oo sidoo kale qabanqaabada laga dareemayo. حسبنا الله بسم الله عاموسه marka عاموسه dhamaanteena عاموسه cabdiqani soo dhaw waa sidaad maqasheen runtii waa faraxsan inaad idinka qosliyo waa qalad dhacay waa qof kasta oo tan waa qalad wax la qarin kara ma ahan sidee ku dhacana in sharaxo barnaamij baan ku jiray aan rajaynayo inuu ahaa ogaal marka waxaa taagneed laba arrimood oo ku saabsan Jubbaland iyo Galmudug midka hore aan galay wuxuu ahaa Jubbaland Galmudug aan galay computerkii ay gadamay computerkii intaan mashquulsan daaro ilaa waxaan waa iska cilad electronic waan galay marka doorashadii dosmareeb ka dhacaysay Galmudug ayaan ka dhigay mid Jubbaland ah tahay aad oo masan halkaasaan ku dhaafayna waqtiga aan nagu yahay Cabdullaahi hay صحيحكي عبد الغني ورتداتي بلاغو ركي ساق فريستي واي شمس هداتي هذا ugu qosasheen markay tiri doorashada ka dhacaysa Kismaayo oo Smareeb ka wado ninkan Jubbaland dhan oo soo raro Galmudug ku bedelaba mistake waa qaata laakiin taas il adeega ka badan laakiin ay qori firi annaga kuma qosolno qofka markuu qaladkiisa qaato hay qaladka labaad farsama yaqaan gegida diyaaradaha ee aadan cadde oo wafdiga ay ka soo degayeen ayaa warar soo baxay qaarkood waxay sheegeen in wafdiga uu qayb ka ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdirasaaq Salaad Xasan isuga waxaan idinka codsanaa waqtiga ayaa aad inoo hayo inaan ka faa'iidaysano waar Cabdiqani soo dhaw waa fashatan waa iska saaran ha waa qaldi kara Cabdisaxan aan misanahay magaca damar uu saxay bal qaladkiisana waa qirtay okay qaladkiisa waa qirtay laakiin farsamada waxa uu jira Cabdisaaq ها لكن قرأت هو قرته هذا مرة قفت قرته ضد ما كي ما كرته ما كرته ضد هاي فرصة ما فسحنا أبو ودي waxaa la soo warinayaa in xalay ay gantaalada meelaha fog lala beegsado ku dhaceen aagga magaalada Ciraaq ee dalkaasi واي horta waxaa kow lagu soo galaa heesaad moodaa qaabka uu heesa hadlaayo maya qaabka xitaa hees maarata adiga waxaa jira mogta waxa la yidhahda taqsiin oo kalente isku hadshay kan marka adig halka xidhi waxaa inuu heesaama moodaa horta cabdiqani haysano cumarow waa maasan tahay wax weyn kulli hadda ma samayn ciraaqta aan ka sheekeyno kama bixin amaan meesha ay fadhiisatay ka kacdo asna fadhiisto cudurka ku dhacay garbiya leyn xiro baraatu ka sii qabtay marka furbajoog waxa subaxay ahayd waxaan xasuustaa Cabdullaahi hore uu sheegay barnaamijkan baryasamo qaybta labaad waxa waa barnaamijyada runtii waa kooban yahay 20 daqiiqo wax la mid ah laakiin barnaamijyada ugu adag arrimaha dibadda looga hadlaa adiga magaalada Ciraaq iyo dalka Ciraaq waa qaad waxaan aan idhigayso waxba ma qaldina aaminsanay la hadda waan dadaalayba marka loo fiiriyo xaaladda lagu jiray ma aan sharaxo idin koran la aan sharaxo gantaalada waxa lagu riday Ciraaq lagu riday waxaan sheegayna waa Ciraaq warkii waxaan aaminsanay badbaado badan aan sameeyay maalinta ka badan laga qaban lahaa halkaan Ciraaq rabay waxay soo baxay Kim Jong Un kuurida waqooyi gantaale adduunyada ay soo baxay website kalan ka akhrinayay waxa ii soo baxaano Ciraaq raba waxa ii soo baxday kuurida waqooyi waxaan sameeyay hadalka marka aan jijiidayo waxaan raadinayaa halka uu igu qornaa warkan ku saabsan Ciraaq jijiiditaanka iyo Ciraaq marka meesha ku yimid waxba ma aha oo balees wax ka qabtay horta saaxiibkii Cabdiqani kan uu ku jiraa mid kale oo ku baxsada Ilaahay uu sahli karaa laakiin kan uu ku jiraa Cabdiqani cabdiqani ma qaadan waa qaatay waa dhamaatay waa iska fasaxayna marka farsamayaqaanka farsamayaqaanka gacanta taagan haya waxaa baraha bulshada xilligan aad loogu faafinayaa muuqaal kalluun badan oo baddu soo ceerisay والله horta fiiri qalabkana soo jaray meesan ogeyn farsamada ana soo jaray xaqiiqa ka hadlaa anoo guriga joogo waxaan dhigay idaacad ogaal markaas waxaan filaa ninka raba inuu weeraro ayaa hadda ku jira عمره محمد علي سيده او فكسكناي معناها عبد القني انه شاربها صارت والله كذب كيغو عادي لكن بدي بلا سو عيرسي اوكي هي ودا شيكده تليفون غديسناي قرعه فري marka
ogaal meel waxa dhageysanaysa taraafika waa barnaamijka ogaal dhageysanayo oo idaacad ka baxay ساعة عبد الغني أروح حسنا فوحام قال عليها سوق غراي بدي سوق عيرس ملاي معنا فجعة كقاضي سمبارة ولا سمبارة قالوا أنا سوق عيرس عبد الغني أنا دفاعي دفاع لهم أقرأ ماشي مية عرفتي هذا كديبه عرفتي ذا كديبنا سحيبك وحورة ملاك بدأ سوق عيرس مقتاي ملاك بدو كجري بنان كسوق جوجا الأركي مركب بدي سوق عيرس ما تصلح يا عارين لا بيكرا ma dheerayn toddobaadii un ka hor ama bil waxa la mid ah ka hor ay ahayd barnaamijka ogaal waxa Maxamed Cali sheegay waxaan rabay inaan dhaho waxay ahayd badda inay soo caarisay malay ama kalluun marka hadda kalluun soo caariyo hadda qarad ku jirtaa marka muhiimaddu waxay tahay marka kalluunkan banaanka lagu arkay warkan keenay in la sheego maxaa keenay yaa banaanka keenay yaa banaanka keenay yaa banaanka badda soo burisay wala soo ciri kalluunka badda la soo ciri hadda qani horta cidana dhageysanaysa intana dhageysanaysa waxa ku jira dad naga cilmi iyo aqoon iyo maskax iyo garaad badan marka waxa la rabaa moogtahay warka lama rabo moogtahay in la isku celceliyo waxa la rabaa muhiimadda in laga qaato waa nagala aqoon badan yahay waa nagala cilmi macnaa waa nagala aftahansan yahay waa nagala maskax badan yahay waa dhan walba waa nagala sareeya marka inaan anaga fallaarta ku jijiidana maana iska qira saaxiibo cayrin iyo caarin labay kala tahay kulli kullanka waa la soo cayrin waa la soo caari wala badda way soo isaga soo caari waa la soo cayrin waa baatalka ku ekaa waa fasaxina marka abu farsamo yaqaanka hay farsamo yaqaan sidaan u bixi lahaynay aan qorshe u samaynay qorshiyaana ku wadaynaa muqadamaynana kuwa kale ku xigo sida saalax jeere iyo beer gadiid iyo ka shaqay doonaa sidaasaan hawsha ku wadi doonaa haddii ilaahay idmo inaan ku wadlana aniga iyo ganacsatada cashuurta bixido gaadileed u badan waa isku sheegnay kaasi waxa uu ahaa yuusuf axmed hagar dabageed gudoomiyihii gobolka banaadir ee uu xilka qaadista ku sameeyey madaxweyne dabageed way caddahay tan way caddahay muran ma laha ay waa isdiibi annagana marka waa fasaxaynaa maadaama uu isdiibi aad iyo aad baad u baahsantahay waxaan rabaa marka in caddeeyo marka in looxii aan nasiib u yeelan shamis nasiib u yeelatay maxamed iyo anigana maxamed waliba iga horeeyay kaalinta saddexaad cumar oo inta badan hablaha nasiib u yeesha maanta wiilashii adaa iga wada qaatay Maryan Cabdulla Xasan samiday Maryan dheer fadhido Maryan soo dhawo sanad guuro wanaagsan sanad guuro wanaagsan Maryan adiga Cumar iyo dhamaan shaqaalaha idaacada kulmiye iyo dhamaan dhageystayaasha waxaan leeyahay si qaasan waa ku salaameena maxabudan salaaminay dhageystayaasha maadaama unuga isku tiimnahay Maryan aad mugtahay samiday mugtahay Maryan dheer samida Maryan dheer ku noqoto marka hadee Maryan leeyahay aad kala daawada Maryan talema ka wadan dheerta kareeb leeno dheerta kareeb burhano calaamada warka garto ari aad warka idaacada dhex joogno burhano barnaamijka markaan fureyno waxaan ku dhahnaa ani Cumar Tiijar waxaan tiimka idaacada ugu dheedheer halkaas wax ka faham marka halkaas bar wax ka faham marka tiimka uu gaagaabo macna halkaas meeshaas mar wara iga baxay wara ma ha soo kaaga baxay intaas ku koob Maryan Cabdulla Xasan soo dhawow mudada sanadkii ah ee 9 February laga joogo 2019 ilaa iyo 8 February ee sanadka 2020 ma aaminsantahay qaladaad ama hafashooyin aad gashay horta hafashooyin way iska jiraan yar laakiin hadda wax qalad oo la iga haynay jiraan ma aaminsan bilaa xafiiskayga soo waday waa tahay sheekayaan u baaqaynaa warbaahinta qaar waxaana la sheegay in ninkaani uu soo faruqmay waxaa laga yaabaa dhagaystayaal fara badan iyo annaga qaarkeenba inaan la fahmin bal mar kale aan hawada saarano warbaahinta qaar waxaana la sheegay in ninkaani uu soo faruqmay ما يرتو عمره صفر هاد ومقلي لكن دبك جرا wuxuu yahay warqada waxa ku qoran horto ilaa ninka la soo sheegay la micnaha amal hadda insan kareem ba haday dhahdo muhiim aan hadda inaan dhaho waa ka gudubta muhiim ahaan inaan dhaho laakiin waxa aaminsan qalad ka dhacay inuu yaa aaminsantaa maya
khalad ma aha xoogaa yar waa ku haftay kaliya subxaanako hadda bal soo far muuqayde soo far muuqay oo dhigi waa fiicantaadi ka dhaaftaadi alaa sheegayay waya qaladkaas waa qalad cad oo loo wada jeedo waxaanu soo xasuusinayaa 2019 isku furanka ragga iyo dumarka marka hay markan waxaan jeclahay bal markii labaad sanadka horta sanad cajiib oo ahay waana sanadkii meelo badan oo Soomaaliya ay soo bisil inta laga tagay waxyaaba igulayaa ku badan waxaa kamid a marinay in qof ayax nool inta soo qabsaday baalasha ka reefay afka gastay عمره أي حلوة جماعة صالح مع العلة ولا جير لهاي. مرت أي حاجة عمله لو جمله. مرت غلط كان غلط خطر واحد. لكن غلط وضرات واي. غلط جور وضرات ما قد جبتين غلط وضرات واي الدمرين. إن الشمس يعني برامج كوجرنا أو مصنع يسي أو ترى رحات. مرت وحاسو قل حفص خليفة نجلس ما ذي حياة الله كشبه. تصالحان وحياة maalintii ugu dambeysay sanadka 2019 barnaamijka galab wanaagsan oo ahaa inta badan asxaabtu galab wanaagsan qaban jirtay galabtaas inagu casuumtay macnaha galabkaas barnaamijka ma ku qorneen marina ma ku qorneen iyadana casuumta shamisna ma ku qorneen xitaa burhana laakiin burhana ku qornaayeen way aad baad u maasay naagtana nagaliso marka madaxeeda Allah ka shubay waa dhamaatay marina aad u maasatay markaan waxaan soo dhaweynaynaa Cumar oo Cabdiwahaab aadan Cabdiwahaab soo dhawo waa maasantahay marina adi iyo guud ahaan shaqaalaha iyo sanad guru wanaagsan waan ku faraxsanahay adiga martiijar waa idin jeeda laakiin aniga qarad maadaama aan leeyahay hayn adiga martiijar waa jeeda waa idin jeeda Cumar aan ku sheego warkaaga leen buu fadhiyaa aan ku sheego okay waa idin arkayaaba maya waa idin jeeda waa wax la yaqaan waa idin jeeda adiga laakiin ma aadan dhahay waan jeedaha tiri soo jeeda waan jeedaha tiri soo jeesa marka way Cumar aad iyo aad ma sintiin kulli aniga maadaama shaqaalaha radio kulmaan ka tarsanahay waan isku joogaa mooy horta qarad ligama haayo ها دي ما هنكودا دي وسيان بر صاحب waxaan jecelahay way waa ku sina Abdul waxaan jecelahay ninkan waa ninka ugu hafashada badan hadalka xaqiisa bal hadda hal la dhageysto markuu noo sheekayna hal laga qabto way hay marka khaladaad hadda aan isleeyahay waa jiraan ama khaladaad gashay oo hadda diiwaan kugu jiro horta ma jiraan sanada kale hadii ahaan lahayd waa laga yaabay 18 oo kale laakiin sanadkan hadda ku jirno aan waxa waaye qalad ku kulmay way farsamayqaanka kulli maxkamadda noo fadhiya wasiirkii amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan loo yaqaanay oo ku xiran dawladda Soomaaliya ku xiran dawladda Soomaaliya hay soo dhaw ma horta ma qaadatay codka horta keegi ma waxaan jecelahay dhageystayaasha inay marqaati ka noqdaan codka aan wareysanayno iyo codkaas kale maxaa tiri codka keegi ma shariifad ay noo saar bal wasiirkii amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan loo yaqaanay oo ku xiran dawladda Soomaaliya codkaasna asaga maaha naftigiisa codkaasna Cumar hal kali ilama muuqday oo loo yaqaanayda qalad sababta ninku nool yahay oo loo yaqaano asax war marka laba laga soo qabtay arinba ba fiirinay Cumar waxaa la yidhaha haddii ay foolo timaado guda qarsoomay hartay guda qarsoomay hartay ma jirtaba adiga doorta Cumar saas ma dhihin haddii ay foolo timaado guda qarsoomay hartay guda qarsoomay hare ma jirabe ay okay way dabcan waa la heli karaa hadda khaladaadka taas kama taagana laakiin taan ka hadlo horta خرط أنا جي لما مركل جرى أبو لو يقانيداس وان قرصنا وصحنك وانولي هاي أنت شو مركل واحد فش إن يرد يعني معنا الهاي كعجة درنا عمره وحنيري دولد أحرنا عيان ربي لكن وحيرد يعني هذا غرض لو شيء كريم سبحان كربا هرت إنكرماتك هو وحكب لو دعوت كيجي معها هذا وحاق هرت مركل مكرت ها اوكي لكن وين بريئيس codkaaga waa qirata maana nin fiican aad tahay khalad inaad gashay hadda waa qirsan tahay ma badna ma fiiri bakeri markiis isha wax lagu dhibciyo markiis waa isku qalad waa qirsan tahay haddii ka bax waa qirsan tahay aan isku dhibo
waa qirsantaa waa isku dhibaa may dhibka xagga bixi laakiin waa qirsantaa may waxaan ka rabaa qaladka waa qirsantaa xoog waa qirsantaa sax horta maya horta mida ka rabaa qaladka waa qirsantaa ha mida ka rabaa intaas waa sanadkii hore horta xasuustaa ninka horta barnaamijka kulankeyga la qayb galaa cilada ugu weyn hadda kahor dhacdaan kaaga sheekeeya marka sanadka hore barnaamijku ila falanqeynayay ninkaan hadduu ila falanqeynayay dadkaan waa inaa xasuusiya mogtahay aniga markaa qodob oo yeman ku saabsanaa ninkaa u dhiiba erey caankuyo alyamin la dhahaa jir mogtahay qodobkaa u dhiibay ani markaa ninkaan intuu hadlaayay waxaan aaday iqra oo farsamada ku jirta waxaan u sheegaya heesta dhextaalka barnaamijka nooca inta qon doonto iqra marka waa attentionkayga marka dareenkayga u baxay mogtahay farsamayaqaankaan la hadlaaya ninkaan waxaa ku istaagay magaca wasiirka arrimaha dibadda yemen magaciisa ku istaagano ninkii magaciisa muxuu ahaa u dhahay dalka wasiirka arrimaha dibadda dalka yemen hebel alyemeni la iska dhigo kulaha sheekadaas horta waa xaqiiqo runta lama dafar mogtahay inta badan haddaan khalad galan aan kulanka ku galo horta burhaan ay geliyo aslan baan ku shaqaladaadka isaga iga horseeda ninkaas weligay ma ilaawin khaalid alyemeni yaa lahaa magaciisa maalintii lahay maanta marka waa runtii barnaamij qodob uu dhibay waa suu sheegayo marka farsamayaqaanku wax uu sheegayay qadarta rabbi marka wixii si aan u soo wadeen dhaqaajin kar waayay ninkii magaciisa meelka keenaday inuu soo fiiriyo raba isaguna uu maqan yahayba waxa allaale waxaan shaytaan garan waayay waxaan ku uri hebel alyemeni iska dhaafay hebel alyemeni waxaan aad uga mahadcelinaa qaladka dambe soo u qaatay waana mahadsantaa intaasaan kaaga koobayn adiga waxaa la soo gaaray gabagabadii barnaamijka qaybihii ugu dambeeyey waxaa la yidhi maxaa Soomaalidu ku maamaadaa dheri ninkii u dhawaa maxaa la yidhi alafaha kala baxnaa lahaa macna deefta un kala baxa aniga adiga maryanay maanta dhan dadaan qufayne waa qoslayna maanta waana qoslayne agaasimaha horta gadaana un dhiganaa asiga barnaamijku soo xiraa isagaa soo xiraayo aniga adiga markaana saaranta in nagula qoslo adigan ku hormariyo inaga maxaa lagu qoslaa anaga maanta dhan qosleen maan la cadaaladaba meesha ka bilaabata meeshaas maanu Cumar ani waxaan isiri marba hadii aad Cumar barnaamijka la idin soo xulo inaad qabataan wax dhan la idin kugu soo xulo bilaad qalad inaad tihiin aniga sanadkii hadda la soo dhaafay si fiican aan u xasuustaa si fiican midaan isku qoslaa jirta ana isku qoslay waa tahay hada sheekay waa naga xishoon waay Soomaali waa naga xishoon waay adigan kugu bilaabo ha shaqaystay waay shaqaysay halkaasna waxaa ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Green waa qaadana waa kiri waay macnaha carabka waxa iga gala muruq ma hadii jira carabka jacma see u dhahda hadda ana isku naxaybo waa kiri waay ana isku naxaybe kiri waay de waa qaatay naga soo koob bravo sasan karaba ha ma qalad kala daaw haysa balsooda qarax ka dhashay gaari lagu xiray waxyaabaha qarxa oo ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho Cumarow wax yar asfaaniyo tusaale ahaan hadda kan waa ku rafto waa ku soo celiyo ugu dambeey waa saxay kii horena waa iga gashay carabka xogaa soo u qornaa isaa u tiri way kala waa ku raftaa ku dhawaa ku celceliyo laakiin ugu dambeey waxa ugu celcelinaa ina barteedi keenamo laakiin dadka laakiin shamiso kala amal miyaani laakiin hadda qaladka labaadna waa qaad naag balaay ka dhacdina waa horta kan waa qaatay dhii waato balaay ka dhacday basheegisaabo dadka deegaanka ayaa sheegay in ciidamadan ay saarnaayeen gawaari hase ahaatee ay ku lug marayeen wadada isla markaan ciidamadu gaariga saarnaa Cumarow qaladaadka ugu dambeeyay horta laga qabto ahay ciidamada gaari ma saarneenbo أنا قلت أنا قلبه هذا معناه إدي شرحها موقتها إذا ما ذو اللجينايين أيقو اللجينايين معناه وضد مرة بارتانا لسمينا وحشتا شبه الله ده حجوهر واي إذا ما أنا جاري دول صاري واللجينايين أنا هذا اتخاذ مقاري دول صاري هذا أنا مركز اللجي سياسي قلبي ما أنت سامقول كأنه مرة بهذه قارة ما أنت إجاب بدن بق أنت سكاب بدن وقوه لنا بكاسوس اسكتيم نوان هاي اسكمل نوان هاي أنا جا أصهر مانو عمر هرت هذه مثل هذا قلب على جاها أنا جامد أنا محي مريس بربرتوه بالله وبتوه نبلك دعدا أنا أضو كل شقي أسدح قلب هذا لاجس وصهري نو أنا أبني ناقش قلب نو هذا كلسوني قبته كلسوني بوحدان قبا شكي عمر تيجر ميل إجسار هرت محابة شكي اللي قدونا ما قصنا صحافة كل حجرة أنا بربرتوه ما مريس هاي بالله أنت جرت أنا جراك أنت جراك سيقرر لاجس وقبنا أنا مر لا كاي
haddii xitaa qalab lagaa waayo waa samaysanayna aboo macalinkeena tahay inaad iska barajeysana rabtaa haddii aniga qalad galay ugu yaraan aan niyadda hala dhis bas hala farsamayaqaanku yeedhe waa ka doodi doonaa sheekay niyadda ii dhis dagaal culus oo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa lagu soo warramayaa hadda inuu ka socdo deegaanka afbarwaaqo ee gobolka mudug faahfaahinta warkani waxaa soo diray liibaan cajiib xaaji markii aad tiri warka qofkaas intee aad intee ma baxday studio ma baxday yaa kale horta afar baa soo amaan xaris ku ay amaan cumar waxaan ognahay inaad ka mid tahay dadka micnaha saxaafadda muddo ku soo jiray wax qalada layguma hayaa dhahday haddana waa ujeeda inaad af okay yaa kale ani waxaan jecelahay hal mar inuu jumlada ka jawaabo intaasaad liibaan saaraysay qofkii doono intuu buuxo soo quweysto soo laaban karaya waa ina dhamaad ay cumar tiijira horta ummad badan waa gasho kowdhe adigana aad is gasho leh waay intaas kugu filan ana waxaan ku darsan lahaa inta badan dadkan waxay dhaheen muddo ku soo jirta saxaafadda taas micnaheeda miyaa in anaga dhan naga weyn tahay mise waxa waaye khibradda iyo waxbarashada meesha ku geyso waa mahadsantiin marka hal mar aan ka jooday jawaabaha إذا مدحت وحلوقي قلنا سؤالها هالمرة على وذا ويديا أنا وين كأغلب بدي بوقتها أنت أصلا وأنت اللي كده وينها horta runta marka aad ii sheego ama saxaafadda ku soo horeey ama ku dambeey qalad waa qalad haddaad 100 sano hadda la soo dhaafay saxaafad ku jirtay qalad waa ka dhacaa aniga boorka leen madaxa ka ceshanay maana sanad walba aniga hal qalad laanahay lama ma tago saddexna ma tago ma fahamta adiga halka xabana ma leega waayo halka xabana la taagana sanad alla keeno intaan barnaamijkan aniga laftigeyga wada hal xabana la soo qabana abar waa qabarkii soo haray ku yaabna horta كي أمسونتا جواريدا أمسونتا الحري معناه جواريدا الحري ماشي الربطة الحري أنا إرادو جواريدا الحري بابورتي الحري يا تاورك ميتين جبتنا ها واجبتا مالتاس ولي بكلمان الله يقول قال كلمان ويا وكجود بينا وحرب هرتا صحافة قبرد يا قبرد العامبا ولا قال غلط وأمريكا كوات مركز لبات xoogaa madaxa ciidda ka ceshanaa maan halkan qalad inuu yaalo fakta hore barnaamijka waa ku sheegay waa marka saddexaad waa run liibaan cajiiba warka soo diray afbar waaqaan kari waaye afare iga imaanaya markaan iraahdo markaan iraahdo afaraan leeyahay afar barwaaqana ma la dhihi karo marka raaca iga soo galayso ra'yi aada dambe waa reebi waaye marka dambe waa u aamusay afbar waaqi inay taarka waa ku dhawaaqay markaan ku dhawaaqay qosnaan la aamusa markaan la aamusa farsamayaqaan ku xiriir aaw ninkii soo diray warka ana qosl laha saaray xitaa qofka la dareemi karaa marka intaas umayna qaladku waa dhacay midda kale qaladna ma ahana waa hafasho waa kari waaye ma ahana aniga qaladan galay ma waana qaatay laakiin dhageystayaasha waxaa jirtay intaanan siinin or qalad kale miyaysaa سوى أنا هلا باي ولقي هلا باللي يجري نمبر 1 بورتيريان كديلا هلكن waa difaacana waxaan ka rabaa marka dhageystayaasha waxaan sanadka hore u ballan qaaday qaladaadka iyo dhahyada runtii wax badan ajir kadis horta hadaan ku soo sameeyay wax badan ajir oo hadda kadibna aan sameeynaay inaan aruuri doono ugu yaraan 10 daqiiqadood ee dhahya ah dhahdaan waa dhahday ugu dambeysay aan qabtay waa maqaayad ama restaurant waaye blue sky la yiraahdo idaacada ka baxaysa marka la duubay waxa duubay Maryan Cabdulle iyo aniga Maryan Cabdulle mistake gale waa dhaajina aniga dhaajinayo si aan dadka waxaan rabaa aan u fahamsiyo aniga markaas hada eray dhahayo haddana ana galaayo aniga la eray isdhahayo idoo cid kale dheen marka dhageystayaasha mar inaan u saartaan jeclaale farsamayaqaan biisa aad u wanaagsan boqolaal kalluun oo laga keenay badeena boqolaal kalluun oo haddii kalluunkaas lagu siilaa Maryana indhaha ku kala furmila walaala hal xaba ma gafteen jikin iyo barosto balalala ya inaan cunooyaan buu malayaaba macnaha hadda ma fahamtay aad iyo aad fahmay Maryam waxay tiri macnaha kalluunay rabtay inay sheegto badii si qaab daran u sheegtay kalluunka waa u saxay marka waxa ay warsaas dheh haddana waxa ay kalluunkaas dil lagu siilahay indhaha ku kala furmay anna barostadii iyo jikinka markaan sheegay inaan cunaa u maleynaa balalab markaan afka dhararkayga daayno waa fahamtay Soomaaliya ku fahmni khalad ka siran soo qaatay
marka dhegeystayaashan waqti maadaama aan u hayno mar haddii halkaas ku dhaafnay dhahayda qaladaadkeeda waxaan jeclaa markaan dhegeystayaasha inaan u saarno qaar kamid ah wariyaasha oo aan hadda goobtana la joogin laakiin ma sii galgali doono waa si guud ma ugu gudbi doona hadii alla tafaftira idaacadan ka bilaabeena Axmed Saciid baa ka wada lama kala xishoon doonaa Axmed Saciid aad ka wada ka dhufo aabbaha dhalay Caaisha Ilyas oo isaga qudhiisa la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inuu ku qanacsan yahay xukunka qaybihiisa kala duwan ee maxkamadaha Puntland ay ku soo rideen raggaasi kufsiga loo geystay qaladka sanadka ma la iska siiya Axmed Saciid halkaasaan ku dhaafno qaladka labaad haddaad ka hayso Axmed Saciid warkeenana waxaa soo saaray maxamed cali maxamed aynu ku bilowna wararka ka imaanaya magaalada dhuusamareeb ee gobolka hiiraan macbuudka dhuusamareeba la soo qaaday xarunta gobolka galgaduud ee ahayd hiiraana la keenay beledweynaha la qaaday intee la geeyey tiim badan oo walaalahay soo asna intaas u dhaafimeen intaas u dhaafimeen Axmed Saciid waayahay yaa kala noocaysa waa masantaa cumrow sharciga tirakoobka qaranka waxaa soo gudbisay wasaaradda qaranka horta tirakoobka sida loo dhaabo qalankeedba tirakoobka xaleen waa xasuustaa warkana si live u galaaye waduhur waxa warka ana akhrinaayo ana su'aashana weydiiyay marka wasaarad oo qarankaana ma jirto laakiin qorsheynta qaranka uu rabay marka inta asagana ku dhaafeynaa Axmed Maxamed Ibrahim waxaa ka mid noqon doona maamulka Jubbaland ayaa sheegay in xaaladda Cabdirashiid Janan uu ku sugan yahay nolol iyo geeri waxa ka mid noqon doona waxa ka mid noqon doona nolol lama geeri ku sugan yahay macnaha ama nolol iyo geeri nolol iyo geeri bal markana dhageystayaasha aan u saarno waxaa ka mid noqon doona maamulka Jubbaland ayaa sheegay in xaaladda Cabdirashiid Janan uu ku sugan yahay nolol iyo geeri dhawaato Axmed markii inta mid kale saddexaad u haysa afar sameeyqan kaba ku dhagan goobjooga la hadlay radio kulmiye balse codkiisa iyo magaciisa diiday in warbaahinta loo adeegsado ayaa sheegay in qaraxa biyomaalow ka dhacay uu haleelay gaari caasi ah oo saarnaa dad shacab isla markaana mariyay halka uu qaraxa ka dhacay gaariga dad shacab saarnaa cumar horta meesha maanta cilmi badan ka faa'iido kowdhe haddana si wax u soo socdeen saaxiibkii Axmed wuxuu noo keenay gaari caasi oo la koraa la arki jiray gaari caasi oo dad saaran meesha waa yaala dhawaato asagana marka inta ayaan ku dhaafeynaa waxaan jeclaa farsameeyaqaanka cid kale u hayo markaas inuu hadana ka ciyaaro dabtana waxaan ku falanqeyn doonaa xabsiga ugu weyn ee dunida qofka ku noolaado waa cabsida iyo walwalka haddaba sidee looga hormarin sidee ka hor horumarinta naftaada sidee ayay kula tahay waa ku raftamaa dabtana waxaan ku falanqeyn doonaa xabsiga ugu weyn ee dunida qofka ku noolaado waa cabsida iyo walwalka haddaba sidee looga hormarin sidee ka hor horumarinta naftaada sidee ayay kula tahay waa ku raftamaa barnaamijka intii la furo ilaa hadda saan u quslka badan because intuu ku rafto oo asaga qariweyno waa ku rafto aad u maasantahay Somaliland oo ku dhawaaqday guddi ka shaqeeya oo gurmashada dadka magaalada Beledweyne Somaliland oo ku dhawaaqday guddi ka shaqeynaya gurmashada dadka ku nool shabeellada dhexe ee ku fatahay webiga Shabeelle oo ka dhacay magaalada Jowhar baxaafeen ana wax badan afaan marka dhageystayaasha say u fahmaan marka la u saarno Somaliland oo ku dhawaaqday guddi ka shaqeeya oo gurmashada dadka magaalada Beledweyne Somaliland oo ku dhawaaqday guddi ka shaqeynaya gurmashada dadka ku nool shabeellada dhexe ee ku fatahay webiga Shabeelle oo ka dhacay magaalada Jowhar isku kicilcisay laakiin taqana toosay ahay waayahay waxaan jeclahay farxi intaas inaan ku dhaafno intaan ku dhaafay farsamaqaanka wali farta u taagantaa gargaarkan ayaa marka hore qorshuhu waxa uu ahaa in la geeyo degmada Afmayo waxaa maqli jiray heblow mayow muuta marwaan mayow oo kale
marka afmayo farxiyo haye waata intaanu ku dhaafno farxiyo xuseen oo ka mid wariyaasha radio kulmiye qaladaadka ay gashay nalama joogto intaasaan uga gudbaynaa markana ayaad noo haysaa farsamo yaqaan musharaxiinta madaxweyne ee galmudug dhinaca kale waxaa la sheegayaa in musharaxiin kale oo galmudug ka tirsan iyagana madaxweyne u tartamaya ay kulamo u socdaan waxaana ka mid ah jenaraal odowaa iyo mas-uuliyiin kale weli waxaa la sheegayaa inaanay natiijo ka soo bixin maxaa halkaas kaaga baxay saaxiibo ani horta waxaa iga baxay laba qof in laisku qalda meeshaan jenaraal odowaa uu yiri ninka jenaraal odowaa waa taliyihii moogta ciidanka oo xoogga musharaxiinta galmudugna kama mid ah marka waxaan is leeyahay aragtideeda laba mid ay noqon kartaa inuu ka waday jenaraal tuuryare oo nabad sugidda haysan jiray marka musharaxiintana ka mid ahaa ama cabdiraxmaan odowaa xataa oo asna musharaxiinta ka mid ahaa marka labadaas mid waayahay xuseen intaasaa ayaanu ku dhaafayna isaguna waa mid ka mid ah barnaamij soo saarayaasha radio kulmiye gaar ahaana barnaamijka lagu yaqaano waa barnaamijka wareysiyada ee xog wareysi la yidhaahdo weli cumar waxaan ku guda jirnaa qaladaadka saaxiibada naga maqan yaa markaana u yeeraysaa maxamed axmed tuuryare jamaal khaashuqji suxufigii ahaa ee turkiga lagu dilay bishii oktoobar sanadkii 2018 shirkadan oo magaceeda la yiraahdo Beverly Hills ayaa waxa ay sheegaysaa in intii ay socdeen baaritaano aad u fara badan oo ku saabsan qaabka loo dilay Maxamed bin Salmaan uu noqday mid intiisa badan baaritaankaasi lagu halagalay dowladda Sacuudi Arab محمد بن سلمان محمد بن سلمان waa ninkii lagu eedeynayay inuu dilka ka dambeeyay asaga la dilu yiri ruuxana waa la sii gashay waya maxamed axmed tuuryare waa naga maqan saaxiibkeen waa u xiisanay aad iyo aad u salaamayna ana si gaar u salaamay maadaama uu saaxiibkii ila shaqeeyo ahaa waa ninka kaliya oo inuu isdifaacana sanad walba jeclaa jiray kubadda loo xana qaadan jiray sanadka hore meeshaan si difaacay waya markana waxaan jecelahay qof kale oo nagu qiimo badan taliyaha booliiska magaalada Katona Ali Janga ayaa BBC-da u sheegay in ciidanku ay dhismaha weerareen kadib markii la soo sheegay hawlgal markaas laga shakiyay عبد الله عبيد وسلام الله سلام الله كمية قرب جوكت Soomaaliyeed waa salaameyna saaxiibtay ما qaran jooggeedu waa safar yar la jirtaa waa imaanaysaa hawlgal laga shakiyay meetire waxay hawlgal laga shakiyay waa ku faraxsanaa barnaamijka qaladaadka wariyaasha inay sanadkan qayb ka tahay hay maxaa kale ma yani waxa maqli jiray moogta dad laga shakiyay iyo laakiin hawlgal laga shakiyay maanta aan bartay cilmi badan meesha ka barooraya bello haawo marka inta ayayna ku dhaafayna yaaba يا سحرة قبل جوجنا وقتنا ون هاي أنا كم خلنا بحدويا اسك سحرة اسك سحرة كلمات هذا الكأن كله حلو وحنود بل ما تغنى أنت اللي سوسو هذا الكأن كله حلو إيسو برنامج كسحرة يا ضحي برهان أقاسمها أوكي برنامج كسحرة يا ضحي nin maanta oo dhan dadka ku qoslay marka waxaan qabaa aniga intii khalad maanta oo dhan baxaysay waxa soo dhan ana si faafagin waxaan rawaa dhiwaato meesha jirtay hadda imaatay waaya balaarak dad badan soo istaagay wala khoslo dadka loo istaagay laakiin waqti ani markaan dhahay barnaamijka soo xira saacadan fiiri mugtahay maanta oo dhan ma la soo xiran hadda ma la xiraa macbuudkan ku la xireen baaya ismaran bixilaha waa si la isugu yaaba barnaamijkana waxa sugaysa qofkan soo socda waa taa dhageystayaal saaxiibayaal dilaanta warkiga aamus maxkamadda ana garsoore ma ana abukaate dadweynaha waa garsoore yaa way agaasin burhan way qofka la lis oo aniga baxanahay مالح تعيلي قبطان مرة هورو أنا قفكي لوادم قفكي سدحاد هوا بحلها وحاسو قيسي برهان درتي سنة أما البعيدة عمر والله شقائي قد عمل ناري كدرت هاي عمر أمل وحقيقة أنا أودك دك سنة برهان عبر أمل هذا الرح لك ساقارنا هاي فاضمة هذه aniga kursiga xitaa waa cini waa iska istaagay على سحيفة ما بكون جرين برنامج كاد محاوفة أقسمها شو يعني عفاف أنا مقطع يورتا habar farxiyo habareeraha gabdhaha idacad joo habareyaasha waa mufta marka laga reebo Maryan iyo laba Maryan oo isku facna halkaas ay jooji waqti ay ugu socdo booja hay adigan yaa lagu qoslina islee gabdhaha sababta marka gabdhaha waxaan jecelahay farsamo yaqaan ii dheele
lacagta laga soo diray koonfur africa ee gaaraysa 9 milyan oo shilin oo lacagta kenya in loo soo diray dad soomaali ah iyadoo loo soo marsiiyey nin ka mid ah kooxdii weerartay weerarkaasi وقتنا وايد هاي دفاع جوجي ايزي اي وصح waa xafashada soo dhacday waa qarsana marka fahamsi dadka si waxa u rabay inaan dhaho iyadoo loo soo marsiyay mid kamid ah kooxdii weerarkaasi fulisay ama xatir marka kooxdii weerarkaasi kooxdii fulisay ama kooxdii weerartay weerarkaas weerarkii waa okay waa qaralay sasa karaba waqtiga in hay saas loogu soo koob hay farsamo qaamaan iska dhaafnaa mayuu yiri maya bishii la soo dhaafana nin olaleeya ah oo Jimmy Sham magaciisa la yiraahdo ayaa 5 nin ay weerartay waxay ku weerareen oo la dhaceen Bruce ama Bruce qofsadu Bruce-ka ama dadka lagu dhufto biraha waa Bruce-ka masaabirta marka alaab la sameeyo loo isticmaalo واتي محمد اسمه قالوا سوق نكا واغاسيني اذا عد كلمي دركيان laga jeexjeexin isaga aadina marina taqtiibay Umar agaasimaha qosolka loogu roonaada ma ay horta ereyga marta waxa xasuustaa ninkan burisal luft ereyga labaad ee rabay markaan ku dhufto wuxuu ahaa sheego ku dhufto oo dhinaca kale tusaale ama marka la dhaho laba shay la soo qaada waa sax marka fas ama waxa dadku u yaqaanana jira mugta minshaar marka burus ama dubbe arbano dubiyan karwaayna marka mar karwaayna waa soo qaban waa burus waa eri ingiriisi amal hafashada marka oo gasha bismillah wuxuu la degsanaa ku fahmay برهان ما لا فصحاي ما هذه وحيالان إيسار هذه صحيح وحيالان يلي فصحنا وارمات إيسار فرسميقان codkaas aad maqlaysaan oo wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdirashiid Ducaale Beyle oo dabcan ka hadlayay magacan kabaad bilowgii barnaamijkan waa sheegay laakiin sheekay qayb ka tagaa jirta oo caadi ah magtahay markii inta naqusaysan qaadanna anaga inta caadiga ma qaadanayna Cabdirashiid Ducaale Beyle asaa ii farsameynaa waliba waxaa maalintaas waxa Cabdirashiid Janan oo xamar inta ka baxsaday oo la sheegay Kismaayo tagay wasiirka maaliyadda uu hadlay maalinta arrimaha caafimaadka wax ku ka hadlay waxaan sheegay Cabdirashiid Janan inuu Kismaayo tagay Nairobi ka sii aaday kadibna waxaan saaray codka Beyle markuu dhamaadaan waxa ay kaas wuxuu ahaa Cabdirashiid Ducaale Beyle wasiirka maaliyadda aan raba mugta marka waxa ay sheekay oo isfiirinay waxa ay raala ahaada waa laga tagay laakiin waa sax laakiin waa raala laga tagay laakiin waa taafashada oo gasha ma yaanaga inta naqusaysan tawa laakiin intii hore midna raala gelin kama bixin ma is qarada ugu waa kan nadir burhan warka soo koob warka koobeena inta anaga naqusaysan soo qaadanayna raala gelintaada iyo soo dhawaantaada iyo qancinta macaamiishaada iyo dhageystayaashaada aday ku qusaysan raala gelintaas waa qarada ugu waa kan macna qalad waa sama kuwa kala qaradan ogeenahay ma horta qalad waa kan qarada ugu waa bas waa ma shaaka hay waa fasaxina soma armada ruux gacana la taaganayso Umar waxaan rabaa burhaan oo role modelka aan ku dayin jirnay ahaa oo aad u yar aan dhageysan jiray inuu macnaha hafashadii aniga uu haday u galay asagana uu hadda sidaan u hadlay saddex umar weeyaba haye waa ka badan yihiin be iisuke in maadaama riyadiisii ay baaba'day halkaas uu ku guuldareysay sidaa darteedna uu go'aan ku gaaray inuu isdaldalo gabagabada barnaamijkan joognaa saaxiibada kala qayb qaatay tabin diyaarin farsamo ayaad maqli doontaan Cabdisaaq Xasan ayaa barnaamijka farsameynayay hay maxaad fahamteen أنا حان فاهم متقارن أنا هديكوا برنامج ما إنه أجسمه برنامج كان بنوصل حرويب وسوق جبينه ما كان معنا هذا هاي ما فهمت هذه أنا وحن فاهمين برنامج كيو جبجبه أجسمه هذا يبلو ما قدرتان بلاو عيتها ما هيك ورن ما هي صاحبة إلى قيب قاتل تبني فرسمة نقل دونتان وحن كوضع عبد الوهاب آدم مقعيسنا شيء الدونا فرسمة غير مقعيسنا شيء الدونا من الشيء نوري والشيء الدونا ومقل الدونا وعمرك ديده عدين كان أي دقيس واللقوها يا عدين سأولود أنا أقول مقطع واللقوها يا عدين waxaad rabtaa inaad sheegto magacyada tabinta iyo farsamada intii kala qayb qaadatay adiga laakiin waxa aad tiri ma taqaanaa maxaa tiri waxa iri saaxiibada igala qayb qaatay barnaamijka tabin diyaar farsamo ayaad maqli doontaan okay isu aniga waxaan u aqaanay waxaad tabinta igala qayb qaatay hebel
farsamada waxaa ka qayb qaatay hebel iyo hebel iyo hebel waa waxaan aqaano laakiin waxaad maqli doontaan heesaan soo wado barnaamij aan soo wado qodobada barnaamijka ay ku jiraan intaba way noqotaa isku siiqa ma ahadi أنا كل شيء عمره بران سيقيس وحي هاد برنامج كصاحبة التمين ديارنا إلى قيب قاتي وأمها العلنية بوسكي مها العلنتا وحقق شو مغلق وانتا وايها عندهم ولا جري ولا جري موي حد وايها عندهم وحن بلا وحن قلب ما شيء ما قاعد تقرب ما ودي مربب هدي او diidata mid dab u saarinay waxa xusid mudan daati shams inuu dhahay shams ma qiran doonto sababta wuxuu og yahay qof kaliya isku dibacadiin waa sabiya ama waxa ogaa waxaan ka wadaan wadaano maamudi wixii ka yimaado dhaaf saasay bogtaade cumrow gabagabada barnaamijkeena ayaan isla soo gaarnay maadaama aad iga yar tahay barnaamijka inoo soo xir sida kaalmaha qaladaadka loo kala helana dhageystayaasha la wadaag waa yaraantaas waxaan jecelahay inaan ku dhawaaqo horta kaalimaha sida loo kala galay sababtoo ah waa sheeko aad u fiican muugta dad badan waxay sugayaan see loo kala galay yaa qaaday kaalinta koowaad yaa galay labaad yaa saddexaad galay oo kala la rabaa muugta adiga marka in kaalimihii la sheegana waa lagama maarmaan sanadkan kaalinta koowaad waxaa gashay Shamis Xasan Haruun waxay qaadatay kubadda looxa ama alwaaxa ama kubadda mugdiga saarabta dheh 7 qaraday aruursatay kiligeed 7 ku hogaaminaysaa kaalinta labaad waxaa galo abaalmarinta isagana hela ma taqaanaa maxamed cali maxamed oo isna aruursaday 6 qalab taasi 7 ay ahayd mugta laakiin gabdhaha hogaaminaya kaalin fiican ana la galiyo Soomaaliya kaalinta saddexaad waxaa soo fadhiistay saaxiibkii Cabdiqali midaan xasuustaa Cumar 5 qalad oo asan qaatay 5 qalad oo keena Soomaaliya waliba waxaan xasuustaa Cabdiqani booska Shamis inuu ciil qabay oo asaga baqaado xasuusana guud ahaan dhageystayaal waxaa intaa ku dhan barnaamijka qaladaadka wariyaasha ama hafashada oo sanadkiiba mar xilliga sanad guurada aad ka dhageysataan idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho inta aanu ku kulmi doona 9 Febraayo 2022 annagoo wada caafimaad qabna nabad qabna waxaan leenahay jaaw Radio Kulmiye